Puntland waxaan isleeyahay dhismaha burburay qayb yar oo ka mid ah weeyaan oo lagu hoos badbaaday yahay isaga ayaana sheegay su'aasha in laga jawaabi karin marka waxaan rajaynayaa inuu san iga sugin inaan wax ka jawaabo oo dhaho waa sidaas iyo waa sidaas laakiin kolley dadka hadda musharaxiintii 22 aan sheegay markaan fiiriyo qurba joog bay u badnaayeen xaliga aan sheegaysi waa qurba joog baasaboor Djibouti aan u haystaa waa saaxiibkay qofku haduuba uu jinsiyad kala wato uusan Soomaali wadan hadda waa iska qurba joog ama qurbo ama ha dheeraado ama ha dhawaado macna weyn sameyn mayso marka waxaan moodaa kalsooni daro dadkii deegaanku mar hadaan baasaboor ama casam fulaan oo sajeebka ugu jirin inaysan kalsooni weyn isku qabin marka ayaan ku dhiirigelin doonaa in iyaga laftooda isku kalsoonaadaan ay soo kacaan laakiin nada wax waa siyaasado nin gurigiisa fadhiyo albaabka laga gargaraacayo loo kaale madaxweynaha ku haynaa isaga la rabaa inuu maaragtay uu dadaalo ordo laakiin ma jiraan shuruud ku xiran ama fulaan marka dadaalka looga dheereeyay inaga uga dheeraynadna waa ka mid tahay nasiib baa ku leedahay marka insha Allah iyaguna waa sugi ya ma mid lagu bogsoodo colaad baabashuu noqon mise bala horseedaha dabka badiya buu noqon ma mid samaha beero Puntland hagaajo dhaqan booriyuu noqon mise bala waatan joogtay sida baarafku noqon ma mid laga baqaayo dadka baacsaduu noqon mise geesi buuxiyo baari deeqsiyu noqon ma mid bahdii wato tolkii baashiruu noqon mise bari iyo mudug iyo mid baran simuu noqon afarta bisleeye balaanbaal kalena soo rogo dhowr hal oo bayaan oo bogon aan ku daabacay baarlamaanka gaarsi badan waxaad u sheegtaa burkijiyo ha noqonina dab wax lagu bislayso biinkoorka tuugadu shacabka ay ku baadhaan iyo ha noqonina barkumataal dilaal haw badheerina hadba boos nin sheegtaa intuu baaqna soo diro idinkoon u biyo degin baqahows assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn dhammaantiinba waxaan idinku soo dhaweynaynaa kulankan halkan aynu galabta isugu nimid aad iyo aad ay u mahadsantihiin aqbalaadda aqbasheen codsigii aan idinka codsanay inaad nagala soo qayb gashaan shirkan aanu halkan galabta isugu nimi shirkan wuxuu ku saabsan yahay waxa inala jooga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland wuxuu inooga warrami doonaa marka xaaladda guud ee gobolka dowlad goboleedka Puntland iyo baarlamaanka iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhanba ayuu warbixin inaga siin doonaa barnaamij inagana halkan iskalistoona waxa kale oo inala jooga oo kamid ah dadka inoo yimid reer Falen baa jooga waxa jooga oo kale oo Westeros baa joogta waxa jooga reer Stockholm waxa kale oo jooga maaragtay dhamaan dadka reer iskalistoona way joogan barnaamijka markuu bilaabanayna waxba dib u dhicmayno insha Allah dhammaantiin mar kale waa mahadsantihiin waxa kale oo iyaguna inala jooga dhalinyaro kamida dhalinyarada oo xataa Jarmalka ka timid halka jooga baa jira oo iyaguna goordo inoo iman doona waa lagu dhanyahay marka meesha waxaan u yeerayaa hadda si uu kelmadaas inoo faro Ciise Ismaaciil Xaaji Ciise ku soo dhawaad Ciise dad badan oo macnaha magac ku leh bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم إلهي بما هذا السكالة أنه مناسب ما يهي ماشي أنا فريستو وحيدين شيغو كل جن علماء وذاتهين ويقى دعوينتين ويقى علم بدنتي ويقى أقوم بدنتي لكن مناسبات دا سيدا اسكال نقطي marka ugu horeysa Ilaahay baan mahadinay walaalay jalla jalaaluhu mar walba isaga mahad iskale mahad yaliiqu bi jalaali isaga garanay intee la eg tahay laakiin haddaan raahno walaalayaal Ilaahay baa u mahadnaqeynaa qof maanta Ilaahay u mahadnaqi karaa ma jiro maxaynu ugu mahadnaqnaa ma Ilaahay inuu insaanina ka dhigay baan ugu mahadnaqnaa ma Ilaahay inuu caafimaadina siiyay ugu mahadnaqnaa ma Ilaahay inuu maskaxdan yarteena ku jirteen adduunka ku kala saarna inuu insiino ugu mahadnaqnaa lama soo koobi karo wayn tacudu nicmatallahi la tuhsuha ba Ilaahay jalla jalaaluhu hadaa koow iyo laba u qaadataan ma tirin kartaan nicmada Ilaahay laana meesha lagu qori lahaa baan ba online ba
haddaynu rabno inaynu ku qorno baddu way dhammaanaysaa haddaynu rabno saxaaraha adduunka inaan ku qorno saxaaraha dhammaanay caalamka meelaynu ku qorno ma helayno marka ilaahay isagaa garanaya mahad u cuntanta annaga waxaan leenahay siduu qur-aanka isugu mahadiya alxamdulilahi alladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ما هذه سقعنا تا إلهي ما هذين ثم ولا ليال مناسبة آد ما شاء الله واوية إلهي وحن كبرينا إنه كدغ مناسبة صدح صفاله waxa way ma taqaana munaasabada Ilaahay la isku xuso wanaagana la isku faro islaax dhexdooda ma taqaan arimahaana looga hadlo taas baan ma taqaan insha Allah rajeynaya waxaan waa ma taqaan mahad celinaya markaas ka bacdi walaalkeen Saciid oo aqoon fiican u leeyahay ka weyn ilaa 15 sano meelahaas isla soo shaqeynay waxaan leeyahay Mr. Saciid aad baan ugu faraxsanahay inaan noo timaanta ma taqaan waana kaaga mahad celinayna inaan soo ajiibtay reeskiisuna kulanka inaan nagala soo qayb qaadatid sida la socotaan walaalayaal ilaahay ujeedo ayuu bini aadanka u abuurtay ujeedadaas ma aha inay bini aadanku ilaahay wax u qabtaan ma ilaahay bini aadanka kama rabo inay u soo shaqeeyaan kama rabo inay u abaalgudaan kama rabo jalla jalaaluhu waxba ilaahay isagoo bila xaaje ka ah ayuu insaanka u abuurtay laakiin ujeedada loo abuurtay waxa weeye in bini aadanku ay dantooda gartaan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun man rabbukum wama nabiyukum wama diinukum nabigiinu waa kuma diintiinuna waa tuma ilaahiinuna waa kuma waa saddex su'aalood qabriga markuu qofku istaago ma taqaana ay weydiinayaan munkar iyo nakiir man rabbukum haddii la isweydiiyo walaalayaal waxaa ka dhalanaysa yaa ku quudiya yaa ku ahaysiiyey intaadan ahayn ka hor yaa maanta meesha tan kugu haya habeenkii markaa seexato dalooladaada yaa ilaaliya noloshaada dhan yaa kantaroola allah jalla jalaaluhu huwa yudcimuni wayasqiin وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين إلها مركان قاجود عنتيسية إلها مركان لبسو بهدو إيه لبسا إلها مركان دنتو مركو هورينا إدي لهدو دينا إسو ما تقانا نوليسينا ولا رجال برنامج كاني انتينا برنامج كقودة قلين وحان هالكان كسو دوين إياه إني سو فريستان وقهورين حلبان سعيد عبدي سمنتر سودو waxaan kaleeto oo ku xijinayaa isna inuu soo fariisto dhinacaas kaleeto abwaan cabdi faacuul barnaamijkeenna waa sii wadanaynaa waxa weeyaan waxaan haddana ku soo dhawaynayaa oday ka mid ah odayaasha magaalada maaragtay Soomaaliyeed odayga marka waxa uu soo jeedin doonaa kelmad soo dhaweyna waxaan ku soo dhaweynayaa Xaaji Aadan Suleymaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحسنتهن كل جيل إلهي ومهد السكالة إلهي النوض يسوق كان يوناجه waxaan soo dhaweynaynaa dadka inoo yimid oo halkan noogu yimid oo naga aqbalay dacwadii ahayd noo imaada shir baanu leenahay iyo waftiga dabadda ka socday Saciid Cabdi Samantar iyo Jahaan kulligiin aad baan idin soo dhaweynaynaa waana idin mahad celinaynaa ilaahay baa mahad celis leh intaa ka bacdi marka shirku waa furan yahay waxaynu isfari lahayn iyo waxaynu isoran lahayn iyo waxaynu waraysi isku siin lahayn intaasaan ku soo gaabinayaa waa mahadsantihiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay adeer aadan oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed iyo reer Puntlandba ee ku nool magaalada Iskalistoona aad iyo aad ayuu mahadsan yahay adeer aadan waxaan mar kale maadaama dadkii hadda soo wada yimaadeen mar kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadka nagala soo qayb galay xafladan ee ka yimid meelaha dhaadheer waxay nala jooga jaaliyada Puntland ee Westeros aad bay u mahadsan yihiin safarka ay soo galeen ay noogu yimaadeen magaalada Westeros si ay noogala qayb qaataan
hawshan muhiimka ayaan kusoo dhaweynayno xildhibaan Siciid waxaan kaleeto mar kale u mahad celinayaa jaaliyadda Iskristuna iyo faleen oo Cabdicasiis Baliile oo taqaanaan Cabdicasiis isagana waxaan leenahay kusoo dhawow halka waxayna la joogtaa Dr. Jahan oo ka timid iyadana Stockholm oo ka shaqeysa isbitaalka Meller Khukuset laakiin reer Iskristuna iyo reer Stockholm intaba waxayna la jooga oo halka ku sugan abwaano aad iyo aad maaragtay loo yaqaano waxa kamid abwaanada inala jooga abwaan Maxamed Xuseen Tabaarak waxayna la jooga abwaanka daada yar ee Cabdi Fataax Ali Firdhiye waxa kale oo inala jooga abwaan Cabdi Faacuul oo halkan fadhiya ayaa isaguna inala jooga waxayna la jooga macallimiintii waxayna la jooga aqoon-yahanadii waxayna la jooga maaragtay gabdhaha ayaa iyaguna inala jooga halka aad iyo aad ayaan dhammaantiin idin soo dhaweynaynaa yaan maana ilaawin ururadii dhalinyarada ayaa inala jooga Maxamed Qadar iyo maaragtay wafdi weyn oo hogaaminayo ayaa jooga dhammaan waa lagu sugan yahay halka dhalinyarada sportiga oo maaragtay ayaa iyaguna jooga dhammaantiin marka si guud anoo waxba ka teginin waxaan mar kale idin leenahay ku soo dhawaada xafladan halka nagala soo qayb gasheen ku soo dhawaada ayaan leeyahay waxaan haddana sii wadanaynaa barnaamijkeeni waxa u yeeraya aqoon-yahan macallin Baaruud Siciid Faarax si uu kelmadiisa u yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت هدي أن كجدبه وحان آدي وهم بلينا هيا دتكي اسكسو أبابو لي شركان روح بدن وكدع هيا عاوة أما قربتها مقالة نسكرستونا أن فيلا هيا إن يتاهي مقالو إن بدن isku dayda inay ummadda Soomaaliyeed markay dibadaha ka yimaadaan wafuudu iyo kuwa gudaha joogaba in ay ka qayb qaataan magaalada isku dayda weeye taas waa hambalyo gaar ah oo soo jeedinayo reer Iskristuna waxaan leeyahay xildhibaan soo dhawow waa magaaladii aad taqaanay ee gacmaha furan iyo qalbiga fiican kugu soo dhaweyn jirta had iyo jeer isla lookaalka naftiisa ayaan kugu soo dhaweynay mar labaadna waxaan ku leenahay soo dhawow qalbi furan gacmo furan iyo waji furan intaba ku soo dhawoobaan ku leenahay haddii aan intaa ka gudbo waxa weeye waxaad ka timid meel fog xilna waa ku saaran yahay waxa la nixil qaaday eed qaad bay Soomaalidu tiraahdaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baad matalaysaa meel kasta ay joogaan ka gaar ahaanna Puntland iyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye dadka Soomaaliyeed isku wada xiran yihiin bee waxa weeyaan waa dad isku wada xiran bee dadka dhan baad matashaa marka waxa weeye xilka isaga aad qaadeen waa in uu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed oo dhan u noqda mid iftiin ah oo u horseeda midnimadii Soomaaliyeed isku soo celintoodii way kala firdhoobeen Ilaahay isku soo celiyo hawl adag baad haysaan waxaana filahayaa haddii aan yara kaftamo waagi dhaweydoo aad doorashada samayseen waxa la damaacinimadu ruux aadamiga wala dhalataa baa liiyo ama waan jeclaan lahaa in amarkayga dhaarba la maqlo oo ma garanaysaaye leeyahay Baaruud baa sidan yiri oo kan iyo keero waan iska jeclaan lahaa waa damaacinimada marka waxa weeye Cabdiraxmaan Faroole markii xilka laga qaaday sidoo u dhiibay xilka u wareejiyay iyo geesinimadii u wareejiyay aad iyo aad baan u jeclaysto waxa uu noqotayba Soomaalidii baa wuxuu noqotay ma taqaanaayay beej cusub oo cajiib ah oo la argo la maqal bay u noqoto ummadda Soomaaliyeed waxaana weeyaan nimankan dimuqraasiyadda ina baray ee meelahan jooga mabaadiidana barta qudhood marka laga qaaday xilka hoosta ka wada guuxaan hamoodina dadku wada aadami oo damacilmo hoosta ka wada jirtaa waxa weeye marka waxaan ka wada hawl yar ma ah xilka sidaas anigoo jeclaasho la toolo in la dhageysto oo maanta xilkinta ariska dhiibon iska dhaqaaqay ninka yeelooba geesi baan aaminsanay anigu marka waxa weeye hawl fiican baad qabateen oo si fiican xaajada nooga qaado deedna ummadii u gudbo waxa naga aragtay wanaaga taasna way dardaaran idinkana mid baan leeyahay
mid baa idinkaan idin leeyahay taa idin leeyahay waxaa weeye meel fiican iyo dimuqraasiyad baad gaadheene halkii uun ka sii wada oo dib hago noqonina waxaana jirta ummadda Soomaaliyeed ee xildhibaanada ah waayaha dambe waxaa laga bartay ila ummadiibaa waxa weeye fikirkeediibaa maskaxda kuma jirto eegal way ku jirtaa maskaxda aqliga Soomaaliyeed lagu hogalay waxa weeye marka waxa arkaysaa sharciyadii loo doortay iyo baarlamaankii loo doortay iyagoo oon ilaalinayna nidaamyo kale iyo barnaamijyo kale wata iyo fikrado kale kuwa ka nadiifsan oo ka waxaysan noqotaan oo aad ummadda u hogaamisaan maalinkan maanta sida saxda sharcigu ogol yahay iyo nidaamkii dastuurku inaad ummadda Soomaaliyeed u hogaamisaan baan jecelahay ummadda Soomaaliyeedna u noqotaan sawir wanaagsan oo qurux badan hadalkii waan dheereeyay baan u maleynayaa dhammaantiin waxaan leeyahay maxaa yeelay waxa weeyaan bulshadu waxay ka kooban tahay rag iyo dumar bay ka kooban tahay sidaa darteed waxaan u gudbaynaa kelmaduna waa iska gaagaaban yihiin saa aragtaanba sidaa ayaana wanaagsan dadku haddii kaleeto waa la daalayaa gorrowna xildhibaankan siin doonaa insha allahu waxaan haddana ku soo dhawaynayaa mikrofoonka raxmo xaaji warsame oo hal kelmad ka tiraahda ama laba kelmadood halkaan soo dhawow mikrofoonka raalli ahaada yaa cod ma qabi bismillaah dhammaan dadweynaha reer Iskalastuuno way soo dhawaynayaa jahliyadaha banaanka nooga yimid aad baan u mahadsan waa soo dhawaynaynaa xildhibaanka Saciid Cabdi Samatar waa soo dhawaynaynaa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dal iyo dibad xildhibaan waa ku soo dhawaynaynaa ku soo dhaw Iskalastuuno waxaa degan dad Soomaaliya dad wanaagsan dad qalbi saafiya dad usan cudurka Soomaalidu taaban waxaan ku sheegayaa xildhibaan aad baan ku salaamaynaa inaad naga gaarsiiso wadankaad ka timi fartiin anagu waxaanu idin dhibanay Hashimaan Deeqayd aad baan uga xumahay dhalinyaradu Hashimaan Deeqayd ma garanay maan u maleynay intay leeg iyo intayga baa garanaysa waxaanu idin dhibanay Hashimaan Deeqayd qayb kamid ah Hashimaan Deeq waa calankii Soomaaliya waa dawladda Soomaaliya marka Hashimaan Deeqayd qayb kamid ah idin dhibanay ciidankeedii wadada abnigeedii wadata wasaaradaheedii wadata hanaankeedii wadata haykalkii dawladnimo wadata birna ayaan ku xisaabtamaynaa idinku mahad celin mayna maanta waa cusubtihiin 5 sano inoo xisaab ah iyo waxaad Soomaali u soo jiidaan waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad cid walba oo Soomaali ah soo dhaweysaan cid kasta wax dhisanaysa aad garab istaagtaan cid walba oo Soomaali ah wixii karaankiina aad u qabataan idinkuna kitaabaad marteen ilaahay hortiis baad la tagaysiin gabadha baadiyaha ugu dhimanaysa dhiig la'aanta midda gaajada u dhimanaysa maalinta ay la hortaag waa la idin weydiinayaa waxa Puntland la idinku dhibay Puntland baahi ma qabto waxa la idinku dhibay u maamula gaarsiiya dawladda laamiga ka dejiya tuulada ha gaadho geedkoosta ha gaadho waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa arintii wiigii hore ka dhacday magaalada Garowe aad baan ugu mahad celinay wasiirka caafimaadka nin aan Soomaali ahayn oo aan aqoon lahayn intuu meel furtay inuu dadkii Soomaaliyeed ku baabiyay uu yiri takhtar baan ahay la baaray jaamacadii uu tagay la soo ogaadin waxba ahayn war ilaahay baan idinku dhaarshay shaqada qofka Soomaaliga u baahan yahay u dhiiba isaga Soomaali waa Soomaali raasaysaas gabar waa Soomaali shaqo qof Soomaali u baahan yahay yaan dadkiina lagu baabin midda kale xildhibaanka waxaan ka codsanay inuu naga gaarsiyo Puntland shaqada qof kale hay'adaha ugu daran oo wasaaradda waxbarashada waa wasaaradda caafimaadka waxanaanada xoolaha hal laga joojiyo anigu waxa garanaya dawladda dadkii u soo shaqeeyay 5 shilin baa lagu xiray magaalada Kismaayo oo khasnada dheer ku noqotay xitaa kama maqnay inuu bishaar bixinaya war ilaahay baan idinku dhaarshay waxa la idin dhiibto dadka sidaad ugu maamula xoolaha la dhoofinayo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya dhan baa la hadlayaa waa xanaanada xoolaha waa in xoolaha la joojiyo dhadigoo la dhoofinayo sabeenta la dhoofinayo oo maxay tiisho aysaanta la dhoofinayo xoolaha waa in la joojiyo labka la dhoofinayo waa in ummaddu waxa ay leedahay lagu maamulaa dekedaheeda ku filan ayraboorradeeda ku filan waxa ilaahay ila si khayraadkana inagu filan uma baahnin baryo marka waxaad naga gaarsiisaa Hashimaan Deeqayd qaybteedana idin dhiiban xildhibaan inaanu bari 5 sano idin kula xisaabtano inaan iyadoo sideed iyo ka badan idin ku nimaadno waan mahadsantahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Raxmo Xaaji Warsame kelmadda qiimaha leh ee halka ka jeedisay aad iyo aad ayuu mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa kaalintii jaaliyadaha ayaan u gudbaynaa waqtiga oo nagu yar awgiis waxaan ka codsanaynaa in hadallada la soo gaabiyo ayaan codsanaynaa
oo waqtiga la yareeyo insha Allah waxaan haddana u gudbayaa kaalintii jaaliyadda Westeros waxaan u yeerayaa jaaliyadda Westeros horta waxay nagala jooga dad badan baa nagala jooga gabdhaha nagala jooga waxay nagala jooga Ahmed Xasan iyo ayaa nagala jooga oo ah macallimiinta magaalada wax ka dhiga laakiin degan magaalada Westeros degan ayaa nagala jooga waxaan hadda u yeerayaa Aamina Jabaan iyo Mulki Ciise oo matalaya jaaliyadda Westeros السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ونكون فرحة مانتا ميشان أنشوغو أن حلديبان سعيد مر صدحاد أمالينا إنان أركايو سيدو سويدن وكسو نقضي أنا وحان كإماد مقالة فيستاروز قدوميا وحان كأهاي جالية بونتلاندو فيستاروز كويالا مركا هذا ونفرح سنة مركا أركو داد وسان يسكو حيران أو rabaan inay wax wada qabsadaan marka koleyba markasta iskilistoonay Westerosna waxba isuma jiraan waxaan rajaynayaa inaan si fiican u wada shaqeyno insha Allah waxa weeyaan magaaladan iskilistoona hadii waqtigu noo masaabaxo insha Allah waxaan samayn doonaa ama aan doonaynaa inaan ka hirgelino oo aan maxay ahayd ka yagleelo insha Allah xarunta dhaqanka iyo suugaanta ayaan ka yagleeli doonaa insha Allah aan jecelnahay inaanu arinta ka shaqeyno maxaa yeelay abwaanada iyo hal abuurka magaaladan iskilistoona jooga magaalooyinka badankood ma joogaan waxa laga yaabaa in laga helo dhowr iyo 10 qof oo ah hal abuur kelmad ama abwaan Cabdifataax Ali Firdhiye oo inoo soo jeedin doona kelmadii ugu tala galay ahayd xagga suugaanta Cabdifataax soo dhaw والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين هذا ردو نعف لها والدمي بس وحال يرى ما في الرجل أما أتكيس النبي بس ما لكم مهما هذا مركان سيد عليه حنوي يقول له صومالي هدول هاي تذكر سكان هذا البدين وحال سؤالكم ما فلي حنتي من موقع aniga dabeecad baa lagu yiqin wax loo oranayaa aniga hadda ruuba soo fariistay wixiisu la soo kala baxay hadeer iyo mucaaradnimadiisi iyo keenaya laakiin waxaan ii sheegayaa dawladdan hadeer jirta Puntland ka jirta inaan mucaarad ku ahayn laanahu yadi waa ugu ba waxaan maleynayaa sanad wax ka yar bay jirtaa dhowr lix bilood bay jirtaa laakiin dalkii aan ka yimi iyo dadkii aan ka yimi waxbaan ku ogaano xildhibaankuna way nala joogaan maansada tan marka horta bulsha la yiraahdaa magaceeda waa si garaysan inay nabadaysan tahay mar hadaa bulsho maqasho waa nabad laakiin afar maado ama afar tusaale bay ka hadlaysaa tan koowaad horta waa salaan tan labaadna waa hoga tusaaleyn tan saddexaad waa baraarujin tan afraadna waa fariin aan u dirayo baarlamaanka Puntland marka Allahumma ballaqtum hadhow yaan lay oraninkii baa يا بسم الله الرحمن الرحيم وانصدق انه بلابيه waxay leedahay wax kastaba burhaan waa nimaan saaxiibanahay oo waqtiga aan maasada sameynayaan ku soo hal qabsaday wax kastaba burhaan bisinka u horeeyay bismillaahi waa kow marka xiga bariidiyo salaam baaxad weyn oo bulsho kaaga timi iyo waxa sida bogaadine waa bishaare iga qabo beel marka xiga burhaano beel lama tiraabo la iskama butaaco runta lagama beeyde bohol lagama tuure gunta laga biyeeyaa xaqqa loo bareeraa wax sabaaqo uu yahay bulshada matali kara horta yaa bad qaba sheeg baarlamaanku waa kee barihiina dhaafiyo bari hore wixii jiray ballanqaadyadii dhacay wax bilkeeday maan arag waxa jirta qof kasta marka la dooranayo ama baarlamaan haada ama wasiir haada ama madaxweyne haade mashruucyo badan oo dadka ka farxiyo uu soo dhigaa banaan marka dambana lama arko bari hore wixii jiray ballanqaadyadii dhacay wax bilkeeday maan arag ku darsoo burhaano dakhli la iska boobiyo jeebko la buuxsaday la banaystay xaaraan baaq waan ku hayno baadigoob ma dayne barashada tacliinta iyo goobihii bukaanada raggii buuniga ahaa baalweynta lacagtiyo beesadii ma gurayaan waxa jirta anigu Puntland baan ka yimi waana ku dhashay waana ku koray dugsi sare iyo mid hoose mid dhaxaa meesha kaga baxay waligii ma arag iskuul bilaash niman ikhwaana oo ilaahay khayra siiye baa lacag naga guran jiray yagaana waxna bari jiray
baalweynta lacagtiyo beesadii ma gurayaan dhalintiyo barbaartii barakicii ma daayeen sidii ma u baxsanayaan saxaaraha ma beegtaan baddu ma u liqaysaa anaa ka soo badbaaday badda alxamdulilah wey baddu ma u liqaysaa ku darsoo burhaanow bilan iyo bishaariyo hablihii bidhaantiyo lagu saantay bilicdee boqorkiiyo dhaclaha iyo bafta miidhan xidhan jiray laga dhiibi jiray boqol sidii ma u boqoolaan baahi ma u eriyeysaa inay u badbadbaarshaan aamintii ma beegtaan shaqa ma u bareereen basanbaas ma haystaa haweenku anu waxaan ku garaadsaday hooyo kala haysa aroortii oo caruur kala haysa baan ku garaadsaday anu waliba waqtigii hore waxaa la oran jiray raggaa shaqan jiray laakiin waqtiga madaxa la soo kacay hooyaa noo shaqan jirta anaga waxay basanbaas ma haystaa beec waxay gadaysiiyo baradhadii iyo toontiiyo bunka iyo xawaashkiiyo waxay baayaxaysaba hadba biidhi qaata iyo tuug sow weli ma boobaan cashuurka ma bisleeyaan sow baaniyaaladii dalka weli ma buuxaan dalkii sow ma baabiin bari iyo nugaal eeg burtuniyo bacaadweyn badhan iyo hadaaftimo buuqhoodle iyo sool gunta bari usii dhaaf baargaal bal soo eeg barta noloshu tiiliyo boosaasa deeqiyo sow dakadii ma baabi'in bulshadii iyo shacabkii sow iyana basmay noqon sow busaarad waalihii baledkii ma saamayn ganacsigii ballaadhnaa sowbaal umuu kicin sixir barar ma kowsaday burkii iyo bariiskii $100 ma u kacay baladaa raggii dhigay raggii buulka nagu gubay raggii bohosha nagu guray kuwii nagu boqraayee boolida saxaye birta naga aslaayay sow baarlamaanka mahayn waxaan oo dhan musuubo oo ma mid lagu bogsoodo colaad baabashuu noqon mase bale horseedaha dabka badiya buu noqon ma mid samaha beeroo puntland hagaajoo dhaqan boorriyuu noqon mase bale waatan joogtay sida baarrabku noqon ma mid laga baqaayo dadka bacsaduu noqon mase geesi buuxiyo baari deeqsiyuu noqon ma mid bahdii wato oo tolkii baashiruu noqon mase bari iyo mudug iyo mid badhansimuu noqon afartaa bisleeyee balaanbaal kalena soo rogo dhowr haloo bayaanoo bogon aan ku daabacay baarlamaanka gaarsii badan waxaad u sheegtaa burkijiyo ha noqonina dab wax lagu bislayso biinkoorka tuugadu shacabka ay ku baadhaan iyo ha noqonina barkumataal dilaal ha u badheerina hadba boos nin sheegtaa intuu baaqna soo diro idinkoon u biyadegin intuu baaqna soo diro idinkoon u biyadegin baqahaw saxeexina isagoo boqnaha jaray sida baqalyahoo kale biilkii dadweynaha ninka beydhsado cunay intaad buura saartaan baashaha ugu yeedhina madaxweynuhu wax allaale iyo wuxuu sameeyo waa sharci isagoo khaladba ma yeeshaba qofka hadlana waa daaqilka baashaha ugu yeerina hadda bahalna cunaya iyo baaniyaal ha keenina waxba yaanan badinina waxaan uga buddigayaa baarlamaanku yuu noqon boosharini leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo kelmad aad u gaaban dhihi doonta isla markaana inaad barataan wajigeeda maxaa yeelay maadaama cisbitaalka ay joogto ka shaqeyso tahay dictorad cisbitaalkeena aan joogta meelar xukuusadka waxa laga yaabaa marar badan inaad la kulantaan ama aad aragtaan ma aragtay marka barnaamij dheer ma soo diyaarin ku mahadsantahay macallin Cabdirasaaq marka iridan ka soo galay ba eedo itiri wax yar marka salaamay waxay itiri ma inta ma ku kortay taasna ma ula jeedo umaleeyaa qaabka u libisanahay hadalkay ka daraanta marka haddana maxaa la agstaajiyay xildhibaan iyo abwaan iyo macallin iyo aqoon-yahaan marka yaraali haddii af soomaaligeeda aad sax u ahaan laakiin bes xasdahay le inaan u mahad celiyo dadkii soo qamqaabiye kulankan sharafta badan waa muhiim in meelahan oo kale iskugu imaado oo laga hadlo wax soomaalida muhiim u ah hadda dowlad baa maasha allah noo dhashay doorasho oo tusaale u ah soomaalida oo dhan baa ka dhacay oo aad loogu faraxsan yahay marka inaan ka faa'iideysano waaye hadda fursadaanay taahanay waxaan rajeynaynaa 5 sano soo socoto inay noqon doonto 5 sano lagu farxi doono oo dib inta loo arko la dhihi karo waxbaa faa'iidna marka ku soo dhow baa dhihi lahaa Mr. Saciid Samatar surcad anigana de askistuuna waa kamid ahay u maleynaya inkastoo muddo sanad i bar la joogaa Stockholmna waa kamid ahay
marka waxaan jeclaan lahaa mar dhow inaa kulan kale aan sameyno oo aan ka hadlo mashruuc oo Dr. Khaliif Bile dad baa garanaya u maleeya waa dhakhtar oo UN-ta muddo dheer ka soo shaqeeyay mashruuc buu wadaa oo la yiraahdo marwada caafimaadka bulshada waxaasna maxaa waaye dowladda Puntland waa taageersan tahay waxbay ka caawinaysaa waxa waaye in la tababaro maamoy ama gabdho 18 ilaa 45 oo dugsi sare ka baxay oo tulooyinka degan hadda waa Puntland marka in la baro basic caafimaadka marka maxaa ka mid ah nafaq darada si looga hor imaado umulaha sida loogu caawiyo maxaa la dhahaa markuu qofka shuban ku dhaco sida loo daaweyn karo adiga meel uu dhakhtar joogin sidii dadka degan degmooyinkaas iyo tuulooyinkaas si loo tababaro si bulshadoodu u caawiyaan marka maxaa waaye marka training waaye marka oo 15 bilood socon doono dowladda Puntland waxyaalo badan kharash bay ka caawinaysaa anakana haddaan nahay bulshad Soomaaliyeed ama gaar ahaan reer Puntland waxa nalaga codsaday inaan ka caawino maxaa la dhahaa biilkooda oo ah $80 bishii qofkii oo soconaya muddo 15 bilood ilaahay ka dhamaanayaan trainingkooda qofkana loo diraayo oo training waa inuu ahaado qof oo tuulooyinka codsadeen dhahan qofkaneet waa qofka ku kalsoonahay oo noo soo laaban doono suu meeshii baahida taalo oo qofka uga caawiyo marka waxaan isleeyahay marka reer Eskilstuna hadaan nahay ina wax ku beeri karno mashruucan waxna weyn ma ahan maxaa laga yaabaa 200 saddex qoys hadii isku imaata 200 bishii 15 bilood hadii socoto hal qof caawisan in caafimaad la gaarsiiyo intaasoo qof oo qoys oo meel caafimaad jirin maanta waana ogtihiin laami ma maro meelo badan oo wadankeena marka insha Allah ma labaad kulan rajeenaya inaan sameeyno mar dhow ah waxaan rajeenayaa inay igu taageertiin anakana ha caawino dadkeena walaalo oo u baahan caawinaadkeena oo ku mahadsantiin دكتور سجهان وما سنتهاي aqoonyahan mudane Cabduqaadir Walaayo oo dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay wada garanayaan ahaana maaragtay afhayeenkii dawladii federaal dawladii ku meel gaarka ahayd Cabdirashiid Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake afhayeenkeedii ahaa halkan ayaan ku casuunay maantay si uu kelmad uga yiraahdo ku wajahan dadka Soomaaliyeed dhamaantoodba iyo maaragtay guud ahaanba waxaan halka ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Cabduqaadir Walaayo ku soo dhawow الرحمن الرحيم waxaan u mahadcelinayaa دكتور عبد الرزاق معن عبد الرزاق oo kulankan ii fursad inaan ka soo qayb galo oo lagu soo dhaweynayo xildhibaanka waxa kale oo runtii aan mahad weyn aan u jeedinayaa fursadan ah inaan la kulmo yani dad aan bari xaafadii lijir isku raran oo laagada agaarkeeda ahayd annagoo aanan qabiil ahayn aan wada deganaa jirnay runtii oo aan ahaan jirnay waxaa la yidhaahdo abnaa alxisb wax shabaab Soomaal yani dhashii xisbigii laagada ayaan ahayn isku rarana Soomaalidu wada deganayd dad la kala saari jirnay ma jirin runtii marka Puntland 1993 maraan boosas tagay nin la yiraahdo jaamaca oo aan nolol ku ogaa iyo maxaa Shir Muuse ayaan magaalada ugu tagay markaas waxay waraadeen walaayo magaalada guriga minankaada way ku soo dhawow koonfurta minankaada way la isku soo dhawayaa runtii marka waxa garan kara kaliya yani qofka muqdishaawiga runtii xamar dadkan kalamay saareen runtii berigaas
laakiin mar dambe balaayo timid runtii laakiin anigu weli niyaddeeda kamaan saarin in maalin uun ay soo noqon doonto dadnimadeennii iyo qarannimadeennii iyo walaalnimadeennii iyo gacalkeennii iyo isuturkeennii iyo maxaato jacaylkeenni inuu soo laabanayo aniga cuqad aan ka qaba ma jiro dhulka maqan oo etoobiyaanka iyo kenyanka ay haystaan iyo puntland somaliland iyo south central somalia in maxaa ahayto greater somalia eufooriyadeeda inay soo noqon doonto shaki igama jiro runtii haddii aan xitaa tago way soo noqon marka waxaan ogahay dunta ummadda soomaalida ay ka samaysan tahay runtii ayaan ogahay yani waa jirtaa dhibaato isticmaalku uu keenay isticmaal hadda kahorna kala qaybiyey ayaa haddana wuxuu noo nugleeyey in la hunguriyeeyo in isticmaalkeena cadowgeena taariikhiga inuu hadda dalka joogo runtii laakiin saasoo ay tahay iyaga ma in la kuwa nagu soo duulay ogaada mana naga xoog badna runtii baahida ugu xooga badan leh adsabi nairobi taallaa runtii xaafadaha maxaan ku sheegaa majengo iyo karyobangi iyo madaari dadka degan markaad aragtaan runtii noloshii ay ku nool yihiin hadda marka dadkan u qaxan ayay nolol heleen runtii adsabana waaba kasi daran tahay runtii marka yaan la isdhiganin qarannimo somalilan soo celino xildhibaanka waa ku mahadsan yahay maanshaha uu noo yimid aniga muddo oo maxaa ahayto gaaraysa ilaa 3 sano ku dhowaad ayaan halkan deganahay markii aan waddanka ka soo baxayeyna labadii noo aan la shaqeynayo the two main protagonists the prime minister and the president ayaa isqabtay markay isqabteen way kala tageen aniga waxaan noqday banyaal yani I was exposed in dadkii cadaawaha oon la dagaalamayay marka mana haysan ximaaya oo leegaaga ersaasan kusoo baxay runtii anoo ilmiga afka kula guurayaan qaarna iga dambeeyaan runtii halkan markaan dad fiican Soomaaliya ayaan la kulmay laakiin waxaan ku fikirsanaa runtii in ay sahal noqon doonto dadka degan diaspora yani kelimada derived from yani Israelka ayaa isticmaala anigu waxaan leeyahay Somali overseas yani Soomaalida badaha ka degan inaan magacaas qaadano because magac yuhuud ay sameeyso waayaan diaspora marka waxaan lahaa Somali overseas ayaa door waxay ka qaadan doontaa dib maxaa hayto soo noolinta qaranimada Soomaaliya markaan arkay jiilka hadda kacay oo aan meeshan kula kulmayna maxay ahayd gumaystaha nimu dishay hadduu idinku geylamo idina aad u guuxdaan guulaystayaalow geyga Soomaaliya halkee ku dambeyn marka qaarkood nin gumaysta uu u soo sheekeeyey ayaa dhalinyarada intu ku geylamay u qaatay Soomaaliya inay saxaabo isu heen kala qabiil tahay Soomaali waa hal qabiil Kenyanka qolinka degan North Eastern Province ma loo kala saaro hawiye iyo daarood iyo ma loo kala saaro iyo maxaa ahayd dir iyo maxay iyo adres ma loo kala saaro Somali waa Somali to nyoka nasaliwa nyoka ay yiraahdaan masuu dhalaa kan Gaarisa jooga kan jooga Muqdisho kan Boosaaso jooga kan jooga Kismaayo kan jooga maxaa ahayd Hargeysa kan ka yimaada Djibouti waxay u wadayihiin mas Soomaali iyo runtii laakiin annaga dhexdeena iskala saarayna runtii aniga nin Puntland iga xiga ma maleynaa inuu jiro runtii ninka isxijiyo asiga u taala runtii aniga qof ahaan Puntland is my own country aniga ale marta qorraxi aniga Soomaaliya marka lahaa qabri daara aniga ale magaratay marka waxa weeyaan Boosaaso aniga ale cidiga xigtaa ma jirto ana can live it peacefully marka waxaan ka codsanaynaa maxaa hayto xildhibaanka waa jirta Soomaali problem ay jirunti problem Soomaali jira waxa weeyaan waxda bad governance ama maamul xumo oo asaas ay u tahay aqoon la'aan baarlamaanka Muqdisho laga soo doortay anigu waan joogay September markii la dooranayo runtii Barso Cabdi Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu yiri sida sariibada xoolaha lagu kala iibsado ayaa codka loo gadanaya runtii waana resign garay runtii ambition wuxuu lahaana inuu ka qayb galo runtii dadka qaarkood waxay leeyihiin waa xukun jecel yahay laakiin anigu waxaan 1968kii soona anigoo ka shaqeeya isaga iyo koox kale ta 1966 loo qaatay inay broadcasters ka noqdaan raadiyo Muqdisho markii dambe kacaankii midna waa tuu aaday BBC-da okay waa nin afuran ha noqdo runtii laakiin
waxaa xaqiiqa ahayd runtii in baarlamaanka dadka soo galay dibutaatiyaasha ragga soo xulay iyo kaabaqabiilada soo xulay kulligoodba korrubtada ahayaan runtii qof korrubtad ana ha ka sugin maxaa ahayto maaragtay khayr ha ka sugan araashi walmurtashin fi naari yaa nabigu alayhi salatu wasalaam kan bixiya maxaa ahayto waxaan la yidhaahdo laaluushka iyo kan qaata labadaba waxaa weeyaan waa naarti galayaan runtii marka waxaan doonayaa baarlamaanka puntland iyo madaxweynahooda iyo dowladda inkastoo aniga aan la soo shaqeeyo rag badan oo haddii aan ka tilmaamo uu ka mid yahay jucaar uu ka mid yahay maxaan ku sheegaa ninka la yidhahdo cabdiqaadir reer cabdullahi maxamed cadaadeerka u yahay ninka la yidhahdo taran iyo rag badan ayaan waxaan wada aasaasnay Somali group on anti-piracy groups ayaan waxaan ku sameynay Kampala under the auspices of United Nations political office of Somalia marka raggaaseeto ilaa hadda saaxiibaan nahay contactna waa leenahay runtii marka mudane xildhibaan waxaan ka codsanayna waxaa weeyaan in aad aasaas u noqdaan meesha kaliya laga filayo qarannimo Soomaaliyeed inay soo noqoto awalba dadka doorka qaato waa qiino aniga Cabdirasaaq Allah u naxariisto maalin dhawaato waxaan soo saaray oo aan Facebook boggaan ku soo saaray sawir aniga isaga oo wada taagan shirki maxaa ahayto Imbagathi oo aan waliba ku daray shirki gudihiisa nin malazanaaw adeer uu abti u yahay ayaa Cabdirasaaq ka reebay liiska because wuxuu ogaa waxa uu ka dhigi kari lahaa shirkaas isagoo careysan ayaan xasuustaa runtii hadda afkiis waa qalale keega qoyan runtii marka waxaan ku wadaa anigu raggaasaan ilaa xad Cabdirasaaqna family and personal friends aan marka awowhay iyo aabahay ayay saaxiibo ahayeen runtii marka maxaa ahayto mudana waxaan ka codsanaa waxa gobolkaas waxaa loo yaqaanaa dadka ka yimaadeen in qarannimo Soomaaliyeed hadda ka horna dhiseen maantana iyaga looga fadhiyaa runtii gruubka halkan joogaana waxaan rabaa inaad xusuusto iyaga laftooda qaarkood waa iska dhalinyaro oo qaar lagu geylama jir runtii maskaxda looga geylama waxaan rabaa inaad wax ka saaran runtii oo aad tusaalayso in Puntland ay tahay aas-aaska qarannimada Soomaaliya runtii marka taasa marka waxay noqonaysaa in Soomaaliya xaggeeda loo kaco doctoresada jihaan warkii soo jeedisayna aniga waxaan qayb ka noqon doonaa mashruuc ay wado anuu Puntland la runtii mudane mar kale soo dhawow aasaas u noqda qarannimo Soomaaliya dib loo soo celiyo aasaas u noqda xoreynta gobolada maqan in la soo celiyo waxaan maalin dhawata ku qoray aniga haddii Faarax Macalin jaga la siiyey oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka laga dhigay haddii maxaan Yuusuf Xaaji la siiyey jago wasiir haddii ina maxaan ku sheegaa Ilay la siiyey madaxweyne macnaheed waxaa weeyaan qarannimo Soomaaliyeed inaysan mar dambe soo laaban runtii dadka lagu sasabay jagooyinka aan waxba ka jirin oo maqaar saarka ah oo xuubka caarada ah oo wadamada maqan loo dhiibayay ogow in laga suulinayo dadnimadeena runtii waana mahadsantiin waxay nala joogaa abwaan maxamed xuseen tabaarak oo ah nin aqoon-yahana isla markaana nin shiikha Soomaalidana gabayo badan ka tiriyay kuwa badan oo YouTube-ka magaciisa ninka qora uu arkayaa gabayadii uu tiriyayna uu arkayaa marka xalab markaan la hadlay waxaan ka codsaday waxa ay suugaantaad waa bad marka bal in yar ka soo qabo maadaama waqtigu ay nagu yar yahay isagana waxaan ku dari doonaa barnaamijka jahaan maalinta aan qabanayno ayaan isaga maaragtay uga dhigi doonaa dhinaca abwaaniinta inuu isagu hogaamiyo insha Allah abwaan aqoon-yahan iyo Sheekh Maxamed Xuseen Tabaarak ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين وبعد. حلبانك ومهتسين هاي آدي آدو مهتسين هاي يو أبوان كوبا وحا يقونا مهد مدن تهلك سوكيسا قبان قابياشي أرنتان اسكوها ولي سيدا قروح بدن وسو أغاسيمي inkastoo waxaan ka qayb galay dhowr goor xaflado la igu casuumay oo raggan barnaamijka hogaamiya 3 daqiiqo oo daba go'an ay dadka u dhiibaan ka bacdina ay yiraahdaan waa ka dhamaatay oo 3 daqiiqo bal magacaaga oo saddexan iyo macallinkii malcaamadda ku soo baray magaciisa ku sheeg adigu waa dhamaanaysaa laakiin kumana dheeraan doono 3 daqiiqana ma qaadan doono haddii aan leeyno waxaan ka hadlayaa oo aan ma garanaysaa soo qaadayaa qodobo yar yar inta aanan suugaanta kooban idin sheegin
soomaaliya waxay ahayd dhismo burburay qarannimadii soomaaliya dhismo burburay bay ahayd dhismahaas oo dhulka galay dadkii ku jirayna waxaana ay ku madheen waxaana ay iyagoo dhaawaca ka badbaadeen Puntland waxaan is leeyahay dhismaha burburay qayb yar oo ka mid ah weeyaan oo lagu hoos badbaaday markii la qaxay waa lagu qaxay iyagoon maamul lahayn waa laga shaqaystay ganacsi baa laga sameeyay waa lagu nabadgalay taasi waxay ku tusaysaa oo ay tusaale u tahay in Puntland ay tahay hooyadii Soomaaliya run ahaantii haddii dalka qayb ka mid ah ay badbaado oo dhismaha dheer ee dumay qayb ka mid ah ay badbaado waxa loo eegay inta badan dadku ma fahmaan tabqalcyo soo taagan iyo jiirka danga waayay godan doortay urur dahay oo soo degdegi waayay wadaan lagu dibaday iyo afyub dooxa lagu oomay garba duuban sagal daahan iyo dalaga meereystay faal daba mar aadiya tilmaan lagu dayoobayo dacatiga inta leeg markuu garasho daymoodo doobaha abwaan waa inuu gabay dinaasha aniguna dabuubtiisa gabay waanigii daday dihiini baan afkaygii la rabay daaya maansada waatan dabalku u xiray dabaqu saaraa duul allo wax igu ceshay doqoni moogayde baldaya duq waa lagu ogaa inuu dardaarma abwaan door ahaayo murtida lagu dareemayay ayaa horay daleed maran u dhugay oo u duray hayb tima caddaa dardaaran uga tagay oo diiwaan qoray dugsi malaq qabyaaladii wuxuu ugu dinaahiyeeyey ee uu dabka u suray inaan lagu dangaadhayn dulli kugu siyaadiyo xumaan durugta mooyaane in qoys darajo weyn lagu helaa waa habeen dumaye nin qabiil dugsaday garasho way kala dayoobeen nin qabiil dugsaday garasho way kala dayoobeen sidoo daa'imkeen sheegay ee ina dareensiiyay ee uu daliilkeena baray maxamed ku doortay sallallahu alayhi wasallam diinta walaa lagu yahay iyo daacada ilaahay wax kale dugaa laga dhigtaba waad ku dagantaa dar alle qabyaaladii wanaag waa ka dadamnayd oo wax xumaan laga durko oo la iska daaya kuna dufoobay qomkii wax badan taa dabacsaday dudumaasi amuud laga dhaqay oo laga dulshaandheeyay iyo dagalka Soomaaliya qolo ka duugowday waa laba isdacal yaala oo aan damiir gelin aqliguna wuxuu diidayaa xaaje dalab weyn leh iyo shay dib ku dhigay mar hore inaad ku daashaa daayarku waa bahal marka dalab ka eegta dayma ruuxna waa leeyahay daaxu dhalayaab xigmada dahaadani rabbi bay doonisti tahay doqontii habowday ee markii dayda lagu keenay ay hooyadii dihatay tiri daahir soo noqoyay isna yiri maxaad igaga digan kii dusaanahay sida kama duwan caanaha daadisay shalay oday iyo darkiis baatiin aad dub kala geyn dumaashi iyo abti iyo seedi iyo wadangal qoys haddii la idin dayo waxa tuhun duubiga oo kale maxaa la isku dilayaa tolow waaba maan dadan dal waraaba cunay oo sidii uu bata u diirtay oo duubatiyay u galay oo dalqada dhaafay dadkiisina uu kala baxsaday daydayaanahay diinta islaamnimo ahayd oo la kala duushay oo 10 firqood loo daldalay oo doxora sheegtay oo aan daliilkeed lahayn daydayaana allah hayow darbaas iyo jin iyo doxorna weete allah hayow dagaal ooga iyo daad dufnootali الله يو دمبابور بحضي يدقدن قيقيسا دمباسكي هوس كنولا الله ودقلكي نافي الله يو ضبيب كلام متشرو او دوين كرا ذلك الكتاب العسكي يدنيه ياسين داريات الله والاخري يدها هي كاف الله يو ضبيب كلام متشرو او دوين كرا دل جلالي ايبو ادان كاكفر ظلم وحويا ما سوق قبل يا قبيقه واد مهتن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله يا الادي يا مهتسنتين إلهي كسكو وحمهات قارة أنا علينا tiimkii soo qabaqaabiyay kulankan qiimaha badan runtii dadku haday isu yimaadaan waxun baa la kala faa'iideystaa oo waxun baa waa la isbartaa waa la iska bartaa waxbaa la isku waxbaa kulanka waxbaa ka soo baxa waana tii sheekh aayadu akhrinayay waxa weeye waxyaabaha hadda marka dadku ay shiray inama najwa min ash-shaytaan macnaha kulamada kuwa khayrka la isu tilmaamo oo waxun khayra xataa ay ku jiraan waa kasii baraka badan yihiin oo hadda arinta ay ditoreysadu sheegtay oo runtii xalay kulan aan ka qayb galay laftigooda looga hadlayay
waa arrimaha khayriga ah oo aakhiro iyo mujtamac waxtaraya. marka tiimkii soo qabanqaabiya xafladan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka yimi meelaha dhaadheer Stockholm, Västerås, Flen iyo meelo kale. aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. awalan waxaan doonayaa intaana ka bixin salaanta hore inaan dadkiina Soomaaliyeed oo halkan ku sugan aad iga guddoontaan salaan madaxda Puntland. waa Soomaaliya, madaxda Puntland waa iska madax Soomaaliyeed qayb ka mid ah. marka Soomaaliya waa sidii hadda abwaanku u sheegayo, waa hal tuulo, waa hal xaafad, waa dad isku luuqada, isku afa, meel ay kala jiraan male. marka madaxda Puntland oo ugu horeeya madaxweynuhu salaan ayuu ii soo dhiibay oo aan doonaya inay guddoontaan. waxaa kaloo salaan ii soo dhiibay madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin. sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iga codsaday inaan jaaliyadda Soomaaliyeed ay ka guddoomaan salaan qiimo badan. salaanta kadib waxaan doonayaa warbixintayda inay u badnaato doorashadii ka dhacday Puntland. maadaama anigu aan goobjoog ahaa, inaan inkastoo internetyadu adduunku iska kooban yahay oo global iska noqday oo laga yaabo in aad xog badan haysaan, wax badanna aysan idin seegin, laakiin wixii aan goobjoog ka ahaa inaan wax idinka tilmaamo haddii Ilaahay idmo ayaan ku bilaabi doonaa. intaanan warbixinta gelin waxaan doonayaa baarlamaanka anigu aan ka tirsanahay inaan warbixin yar idinka siiyo. wuxuu ka kooban yahay, suu u samaysan yahay, qaabkiisa, goortii la dhisay, muxuu doonayaa baarlamaanku, hamigiisu inta hadda baarlamaankan cusub oo 2014 January 1deedii shaqada bilaabay ilaa 2018 bisha December 31deeda muxuu doonayaa inuu qabto. kadibna doorashada insha Allah ayaan ka sheekayn doonaa xoogaa haddii Alla idmo. baarlamaankan waxaa la dhisay 1998dii. waad ogtiin dagaalkii Soomaaliya ka dhacay waa la kala firdhaday, qoloba meel bay aaday. dadkii deegaanka ku noolaa waxay ku tashadeen inay isa sii maamulaan inta dowlad Soomaaliyeed laga helayo. odayaashii, siyaasiyiintii, aqoon-yahankii waa isu yimaadeen, jeebkooda ayay lacagti ka soo saareen, xoolahoodii ayay qasheen, meel bay fariisteen. waxay dhaheen war Soomaaliya intaynu inagu horta ishagaajino oo qofku markuu asagu ishagaajiyo ayuu qof kale wax tari karaa. carabtu waxay tiraa faaqidu shay laa yucti, qof hadduusan waxba haysan wax ma bixin karo. marka waxay dhaheen war intaynu inagu ismaamulno, isu tagno oo inagu tashanno, kadib Soomaaliya aynu wax la raadino si Soomaaliya ay dowladeeda usoo laaban lahayd. 1998 bay ahayd, shir dheer oo waqti badan socday ayaa waxaa lagu go'aamiyey in Puntland loo sameeyo maamul oo markaa ka koobnaa gobolada kale ah Mudug, Nugaal, Bari, Sanaag, Sool iyo degmada Buuhoodle ayay ahaayeen. odayaashoodii, siyaasiyiintoodii 3 gole ayaa la qorsheeyey inay madaxweyne iyo ku-xigeen iyo golo wasiiro, golo baarlamaan oo ka kooban 66 iyo golaha garsoorka oo markaas aan aad loo cayimin laakiin la sheegay maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga iyo baarlamaanka 66 xubnood ayaa la go'aamiyey inay noqdaan. waxaana loo qaybsaday gobollo. gobolka Bari waxaa la siiyey 22 xubnood. gobolka Sool oo ay ku jirto degmada Buuhoodlena waxaa la siiyey 15 xubnood. gobolka Nugaal waxaa la siiyey 9, gobolka Mudugna waxaa la siiyey 10, gobolka Sanaagna waxaa la siiyey 11. saas ayay waxay ku noqdeen 66 xubnood. dhinaca gabdhaha, ka qaybgalka gabdhaha ee baarlamaanka waaga waxaa la go'aamiyey in gobol kasta uu keeno gabar, xubnaha baarlamaanka inuu ku soo daro gabar. waqtigii koowaad iyo waqtigii ku xigay labadaba waa la sameeyey. 5 gabdhood ayaa soo galay baarlamaanka oo kala matalayay 5 gobol ee ay ka kooban tahay Puntland ka koobnayd markaas. kadib waa naaquseen, 3 bay noqdeen. hadda baarlamaankii hadda kan ka horeeyay 3 bay ahaayeen. hadda 2 gabdhood ayaa baarlamaanka ku jira oo kala matalaya Mudug iyo Sool. goboladii ugu horeeyay ee xubnahooda ku bedela ragga waxaa ka mid ahaa Bari iyo Nugaal oo runtii anigu aan ka soo jeedo.
waa ka xumahay laakiin bahashii baa soo kululaanaysay oo mar walba dhibkeedaa soo badanayay marka hadda 2 gabdhood ayaa baarlamaanka ku jira baarlamaanku wuxuu qaybsan yahay guddiyo isu qaybiyaa runtii waqtiga shaqada baarlamaanku ma badna oo marka la isku dardaro shaqada joogtada ee baarlamaanku waa 90 cisho sanadkii waa 3 bilood 45 beri iyo 45 beri waxaa dhici karta shaqooyin aan joogto ahayn in baarlamaanka loogu yeero oo arrimo maaragtay haddii wax soo darriyaan taasoo macnaheedu yahay guddiyaha baarlamaanku leeyahay oo 10 guddi ah guddiyadaas iyo 3 guddoonka 13 xubnood ayaa jooga oo ayagu shaqeeya inta kale waxaa loogu talagalay inay gobolladii aadaan deegaankii aadaan kii guddiga amniga ku jiray inuu arrimihii amnigii ka soo warramo kii arrimaha bulshada ku jiray inuu arrimihii bulshada ka soo warramo kii ku jiray arrimaha deegaanka inuu ka soo warramo marka xogtiina ay u soo gudbiyaan guddigii joogtada ahaa oo xarunta joogo shaqaynayay si loola xisaabtamo ciddii ku shaqada lahayd qolo walba saas ay shaqadu u socotaa marka baarlamaanku guddiyadaas uu qaybsan yahay anu waxaan ka tirsanahay guddi la yiraahdo guddiga siyaasadda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga oo runtii shaqadiisa ay ka mid tahay isku xirka jaaliyadaha dibadda iyo dowladda isku xirkooda ka warqabidooda marka muhiim bay ii tahay inaan safar dheer u soo galo inaan halkaan idinku imaado oo idiin warbixiyo oo aan iswaraysanno oo xogtiinna aan ogaado kadibna aan dalkii kula laabto haddii ilaahay idmo baarlamaanku shaqaalo badan buu leeyahay 52 shaqaalaha baa ka shaqeeya golaha baarlamaanka oo isugu jira security agaasimayaal maamul media waxyaabo badan ka shaqeeya ayaa jira baarlamaanku runtii raggii hore hadda markii doorashadu dhacaysay 34 ka mid ah waxay ahaayeen xildhibaanadii hore waxaa ku jira 5 xildhibaan oo baarlamaanka Puntland lagu aasaasay oo 1998 xildhibaano noqday ayaa wali ku jira dadkaas waa dad macnaha khubara oo wax badan soo joogay wax badan bay baarlamaanka bay u faa'iideeyaan baarlamaankuna hadda shaqo weeyo qofku kaga horeeyay waa ka khabiirsan yahay wax badan buu ka og yahay runtii 5 xildhibaan oo hadda ku jira dad badan baa wax ka sheega laakiin anagu waa dugsanaa oo waqti badan bay soo joogeen wax badan oo conflicti soo xali wax badan bay og yihiin 5 xildhibaan oo 98 lagu bilaabay ayaa ku jira 34 ka mid ah baarlamaanka cusub intaan xukuumadda la dhisin waxay ahaayeen baarlamaanadii hore oo markaa kii ka horeeyay 30 iyo waxa cusbaa 2 laakiin nin ka mid ah ayaa wasiir noqday marka 33 iyo 33 way 33na waa cusub tahay oo anigu aan ku jiro 33na waa timaamkii naga horeeyay ama hal teeram ha fadhiyaan ama 2 ha fadhiyaan ama 3 ha fadhiyaan marka waa la iswaraystay maxaan qaban karnaa baa la yiri waa la isu yimi waa la shiray waxbaa la qoray waxbaa la debate gareeyay waa la murmay marka waxaan idin sheegayaa waxyaabo ka mid ah waxyaabaha ay baarlamaanku ku haminayaan inay qabtaan waa laga yaabaa inaysan qaban laakiin kow horta waa inay ka timaadaa qofka isaga waa inay ka timaadaa wax uu maagan yahay markaas wixii ama gaari karaa ama uu macnaha ku guuldaraysan karaa inuu gaaro waxyaabaha uu doonaya waxaa ka mid ah inuu dhagaysto shacabkii soo doortay oo ay ka yimaadeen inay dhagaystaan oo u dhuundaloolaan waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay rabaan iyo waxa ay doonayaan waxyaabaha uu doonaya waxaa ka mid ah inuu wada shaqayn la yeesho xukuumadda oo baarlamaanka uusan dowladdii ku noqon caqabad shaqadeedii hortaagan uu shaqada u fududeeyo lana xisaabtamo oo macnaha uu dowladdii ula xisaabtamo waxyaabaha uu ku haminaya waxaa ka mid ah arrin halkan laga sharqamiyey oo ah in Puntland loo gudbiyo macnaha dimuqraadiyadda ama xisbiyada badan qaabka hadda qabaliga oo 98 lagu soo bilaabay reer hebel intaasay leeyihiin reer hebel halkaasay leeyihiin in laga gudbo la yiraahdo reer hebel waa yar yihiin kuwa waa badan yihiin waxaas dhan waxa loo gudbi karaa in nin walba halka wax ku rito ninkii badan iyo ninkii yar halkaas ka soo baxaysa marka barnaamijkaas runtii dowladdii hadda ka horeysay dowladdan waa isku dayday laakiin waqtiga oo ciriiri ahaa dadka oo aan la fahansiin oo waqti loo helin ayaa waxay keentay in laga hor yimaado waxaana la go'aansaday in waqti dheer loo helo hadda waqti dheer baa la haystaa dowladii hore 4 sano ay ahaayeen tan 5 sano ay haysataa
marka waxaa rajaynaynaa insha allahu tacaala hadda dad baa isu diyaarinaya xisbiyadii hadda wuu bilowday actionkeedii dad badan baa hadda xisbiyo iyo aragtiyo xisbiyaa socda marka mar dhow insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas in lagu dhaqaaqi doono halkaasna dad badan oo cabanaya ay xaqooda ku heli doonaan gaar ahaan dumarka baarlamaanku wuxuu kaloo doonayaa inuu macnaha xukuumadda puntland inuu kala shaqeeyo waxaad ogtihiin puntland iyo dowladda federaalka waxyaaba khilaaf oo yaryar baa jiray in la dhammeeyo runtii waa waxaan loo baahnayn inuu sii socdo baarlamaanku wuxuu go-aan ku gaaray inuu xukuumadda kala shaqeeyo sidii loo dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka si dastuurka waafaqsan si horey loogu socdo labaduba waa ku dulman yihiin dowladda federaalkuna waa ku dulman tahay tii goboleedkuna way ku dulman tahay oo haddee dowladda rasmiga ah oo federaalkii weeye saxiixaasaa shaqaynaya 5 arrimood ayay mas-uul ka tahay baasaboorkay mas-uul ka tahay lacagtay mas-uul ka tahay xiriirka caalamigaay mas-uul ka tahay gaashaandhigii bay mas-uul ka tahay marka mas-uul kama noqon karto haddii xiriirkii kala go-an yahay marka baarlamaanka waxyaaba uu ku haminaya ayaa ka mid ah in xiriirkaas la wanaajiyo baarlamaanku wuxuu doonayaa inuu xukuumadda kala shaqeeyo kor u qaadidda iyo adkeynta amniga nabadgelyada xalinta wixii khilaafaad ah ee maamulka dhexdiisa ama dadka deegaanka ee soo kala dhexgala inahaas ayaan baarlamaanka kusoo koobaya waxaa kelmad ka oranayaa loolankii doorashada waxaad ogtihiin oo dhagaysateen idaacadaha ka maqasheen meel walba ku aragteen loolan culus ilaa doorashada waxbaa ka horeeya kambeynaa ka horeeya kacdoonnaa ka horeeya ishardin baa ka horeysa runtii siyaasad bay ahayd oo hadda siyaasadda asaaska halkanba waad arkaysaan isfaariya sebtembar doorasha ka dhacaysa waa bilaabatay waxa la isu qoraayo iyo waxa idaacadaha laga hadlayo iyo sida la isu maagayo iyo marka inta doorashada laga gaarayo weeye hadhow waxaas waa iska dhammaanayaan hadhow tan kale markay soo socoto ayaa waxa weeye haddana la bilaabaya marka runtii doorasho adag bay ahayd oo marka koowaad soo xulidii xubnaha baarlamaanka ayaa doorasho kale ahayd oo waxaa loo galay loolan adag waxaan xasuustaa kayskii waxbaan ka qorqori dad anigu qoraabaan ahaan jiray markii waxbaan qorqori jiray marka dad badan baan waraystay nin walba suu ku soo galay adigu saa ku timi meesha adiga yaa kugu qabsaday marka nin baa wuxuu igu yidhi 25 qof baa igu qabsaday oo familkiisa ah eedadiis fulaankiis adeerkiis min adeerkiis hal famil kan 26aad baan ahaa buu yidhi waana kursi baarlamaan buu raadinaya marka waad garan kartaan waxaa la magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka xukuumaddii markaa jirtay ay magacowday waxaa ka hor yimi gole ay samaysteen musharaxiintu waa ka hor yimaadeen inay aqbalaan waxay ma aqbalsanin waa in dad nolol ku daraa waa la isku khilaafay arrintaas guddiga waa shaqo bilaabeen ayagoo shaqadii wada oo weli aan la ictiraafsanayn bay waxay qabteen faylal gaaraya 269 fayl oo lagu doonayo dhammaantood in laga mid noqdo 66 xubnood 269 fayl bay qabteen laakiin waa ogeyn annagu in musharaxiintu ay aqbali doonaan oo musharaxiinta laftigeeda dhowr nooc ahayd kuwa macnaha dhabta ay ka tahay inay tartamaan way aqbalsanaayeen guddiga wayna ogaayeen saas darteed ayay shaqadooda u bilaabeen marka waxaad dareemi kartaan loolanku halkaasu ka soo bilowday hadhow haddii madaxweynihii la gaaro marka xagee see xaal noqonaya waa kasii adkaanaya kambeynaa la galay waa la ismaagay waxbaa la iska sheegay erayo adag baa la isu adeegsaday laakiin waxaasuna siyaasad bay ahaayeen magaalada caasimadda garoowe waxay ku waabariisan jirtay subax walba musharax soo galaya iyo mid baxaya iyo mid soo degaya gawaarid maalin walba waxaad arkaysaa boorar meelihii madbacadihii baa waxay waayeen waqti ay wax ku daaba macnaha waxay noqdeen busy funaanadaha iyo gawaaridii waxay noqdeen shidaal u joogtaa meeqa magaaladii waxaa laga yaabaa waxaan arki jiray kuwa waxay leeyihiin marka musharaxiintu imaanayaan iyo shidaal baa laga dhergi jiray xataa haddaysan aadayn meesha war xaggee shidaalkii maanta kaga shubanaa baa la leeyahay markaasaa magaalada dhan shidaal loogu shubaya gawaaridii wixii magaalada ku jiray baa baxaya ninkii wuu yaabay waxaanoo dhan inuu asagu waxaanoo taageerayaashiisa yihiin buu moodaya nin walba wuxuu leeyahay anaa madaxweynaha marka taagtigaasna waa la isticmaalayay si nin walba
niyadda loogu dhiso marka runtii aad ayay uma ammaanan yihiin dadka ku dhaqan caasimaddu odayaashii nabadoonnadii waxaa la isku dayey in qof kasta la soo dhoweeyo qof kasta inuu dareemo inuu gurigiisii joogo inuu dadkiisii la joogo waxaan anagu u tegi jirnay musharaxiinta hadday wax ka cabanayaan hadday wax la kulmeen nin walbana wuxuu ahaa habi nin walba wuxuu haystay 40 xildhibaan baa meel ugu xareysnaydoo xildhibaanada laftigoodu hadda nina wax ma diidaan waxay dhahaan war waa la khayrayaa meesha uu CV-gaaga akhriyo khayr baa la helayaa saa nin walba wuxuu haystaa intuu la kulmay 40 buu tirsadaa marka nin walba 40 buu haystaa marka ninna ma ogola inuu tanaasulo hadduu yidhahdo ii tan 40 baa adu maxaa anna 40 baan haysta marka runtii doorasho adag bay ahayd madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa isu sharaxay dad gaaraya 30 qof oo isaga kala yimi adduunka oo dhan baa isu sharaxay ugu dambeyntiina doorashada waxaa galay 11 u sharaxnaa madaxweyne iyo 10 u sharaxnaa madaxweyne ku-xigeen waa jireen khilaafaad soo dhex galay runtiina laga gudbay oo isimada iyo culummada iyo xafiiska qaramada midoob qaabilsan Soomaaliya iyo baarlamaanka markaa laftigooda inay maaragtay waxyaabo yaryar oo iska mar walbana lana ogaa in la xalinayo oo la xaliyana waa jireen kowdii Janaayo baarlamaanka markii lagu dhawaaqay runtii arinta waxaa la wareegay baarlamaanka la wareegay oo awal guddiga ansixinta ku jiray dawladii hore ku jirtay ugu dambeyn kowdii Janaayo maalintii la dhaariyay xildhibaanada iyaga la wareegay doorashada aad daawateen oo TV-yada ka aragteen oo runtii taariikhiga ahayd baarlamaanka qaban qaabiyay budgetka u badan oo la isticmaalayna wuxuu ahaa lacagtii musharaxiinta laga qaaday anigu waxaan ku jiray qodobo waxaa jira dadka issharaxaya macnaha tribiyadii hore la isticmaali jiray oo ah midalan qofka issharaxaya waa inuu wadanka joogay 2 sano ugu dambeysay waa ka saarnay qodobkaas sababtoo waxaan rabnay inaan xogaa lacag helno ninkiina uu qanco oo waxaan diidanayn in nin ka yimi America ama Ingiriis ka yimi ama Carab ka yimi oo kharash galay oo intaas ummada soo dhaweysay hadii la hor istaago leeyahay ma gelisay qodobkaana ku qabtay hadda waxay noqon lahayd inuu khilaaf keeno annaguna waxaan rabnay wax sumcado qof walbana isagoo qanacsan yahay halka ka baxo waxyaabaha aan ku soo kordhinay waxa kamid ahayd awal waxa la saxiixi jiray warqadda damaanad qaadka qofku inuu aqbalo doorashada foomkii la socon jirtay lacagta uu ku bixinayo qofku uu soo saxiixi jiray hadhowna uu keeni jiray dadku ma ogeyn marka taa waxaan ku soo siyaadinay intuusan doorashada qofku gelin inuu warqadda dadka hortooda ka akhriyo inaa fiirsateen baan rajaynayaa hortooda intuu ka akhriyo inuu ballan qaado inuu aqbali doono doorashada wixii natiijo halkaa ka soo baxa waxyaabaha cusub bay ka mid ahayd oo sii hagaajiyey nin walba waa yimi waa sharaxay lacagtiisu la baxay waa khudbeeyay waa la dhageystay waa loo sacbiyay wuxuu helay waa halkaas ka baxay nin walba isagoo faraxsan oo dadkii u mahad celinaya ayuu tagay marka baarlamaanka ayaa runtii dowrkaas iska lahaa iyagu waliba aad mashquul u ahaay oo aad loo cayrsanayay oo waxaasoo musharax ay nin walba uu doonayay inuu xodxoto haddana waxay ku mashquulsanaayeen inay shaqadoodii qabsadaan oo ay doorasho ummadda dhan dadka deegaanka iyo kuwa kaleba niyadda u dhista iyo Soomaali oo dhan in la sameeyo doorashadii waa la qabtay 7 waxaa khudbeeyay musharaxiinta oo dhan 8 waxaa la qabtay doorashadii waxaa ku guuleystay Professor Abdul Maxamed Ali Gaas iyo Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey oo madaxweynaha ku xigeen loo kala doortay kadibna iyaga hawshii la wareegay annaga xilkii waa naga dhacay xogaa waa nasanay waa seexanay culayskii xagga awal xagga iyaga loo soo buuran jiray oo annaga guryaha iyaga la soo garaaci jiray oo telefoonadii mashquul bay ahaayeen xagga loo batay iyo madaxtooyadii halkaas lagu mashquulay ayagii baa saf loo galay iyagii baa waqti waayay kadibna 28kii Janaayo wuxuu soo magacaabay golaha xukuumadda runtii aad buu u yareeyay 60 iyo dhowr bay markii hore ahaayeen 47 ayuu ka dhigay waxay ahaayeen 18 wasaaradood bay markii hore ahaayeen in fact taas wasaarad ziyaadaba ku daray oo 19 buu ka dhigay laakiin wuxuu yareeyay wasiir ku xigeenna badan baa awal jiri jiray kuwaasuu yareeyay 47
19 wasiirah iyo 19 ku-xigeenna iyo 9 wasiiru dawle ayuu magacaabay runtii waa lagu qancay waana la soo dhaweeyay baarlamaankuna waa ansixiyay maadaama dad cusub ay wada ahaayeen hadda wuxuu u xagxagto qof cusub oo wali aan shaqo loo dhiibin meesha kuma jirin saadarteed si culayska madaxtooyada iyo looga yareeyo oo wasaaradihii shaqada ku lahaa nin walba uu shaqadii u qabsado waa la fasaxay markii koowaadna dad aan macnaha wasaaradaha ama golaha xukuumadda ama baarlamaanka ku jiri jiran ayaa lagu soo daray dumar badan oo ilaa 5 gaaray ayaa golaha wasiirada lagu daray marka runtii aad iyo aad ayuu u dadaalay hawshiina halkaas kadib golaha xukuumadda haddii la ansixiyey anigu waan soo tegey intaa kadib wax weyn oo dhacay safaraa jiray madaxweynuhu u baxay laakiin wax iga dambeeyay oo badani ma jirin marka warbixintii doorashadii iyo baarlamaankii inahaas ayaan taa ku soo aruurinayaa qodobka kale aan ku xigsanaya waxa weeye doorka jaaliyadaha jaalidu maxay qaban karaan jaaliyadaha Soomaaliyeed maxay qaban karaan waa sheegnay Puntland haday iyadu ismaamushay dadka oo dhan waa ka guuxayaan in Soomaaliya midnimadeedii la raadiyo in Soomaaliya isu timaado qaabka ay ku heshiin karto oo hadda ay ku heshiisay oo dastuurka ugu qoran oo federaalka oo xal loo arkay Soomaaliya in waxna la wadaago waxna la kala lahaado waxaad ogtihiin Soomaaliya anigu xamar baan joogay 1991 markii dagaalku dhacay waxaan soo maray wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda waxbarashada waxa la boobayay miisaskii iyo kuraastii waxa la jijibinayay boorarkii sababta dadku ma dareensanay waxaan inay wax ku leeyihiin waxaan inay xoolahoodii yihiin oo wasaaradda kombiyuutarradii iyo baalihii wax lagu daabici jiray taybarkii marka casriga ahaa oo waaga jiray la soo qofiyo banaanka la soo dhigay warqadihii macnaha dadku lahaansho ma dareemayn inay waxaan leeyihiin ruuxan inay iyagu wax ku leeyihiin waxay islaayeen dawladda iskale balaya iskale marka Soomaaliya hadda waxyaabaha lagu saleeyay federaalka waxa kamid ah ina adigu aad wax leedahay qofkana wax leeyahay waxna ay idin ka dhaxeeyaan oo ay wada ilaashataan marka sidaas kamid ah barnaamijyada hadda hay'aduhu ay ka fuliyaan Soomaaliya waa ku daaleen lacag bay siiyaan waxba la dhisaa ceelal baa la qodaa waa laga guuraa hadda waxay keeneen in dadku wax ku darsadaan mashruuc baa meel laga sameeynaya waxay ku leeyahay 50% baan bixinaynaa 50% kala keensada idinku sababta waxa la dareensiinaya dadku inay wax ku yeeshaan waxaan xoolahooda inay wax ka geliyaan si ay lahaansho u dareemaan marka arrimaha federaalku waa arrimaha keenaya in wax la wada lahaado waxna la kala lahaado hadda Soomaaliya dhulka Soomaaliya lama kala lahaa oo hadda dadka Puntland sheegta dadka kala degan baa ka badan haddii hadda doorasho iyo timaado dad badan oo soo baxay baad arkaysaan oo madaxweyne ama wasiirro noqonaya aad arki doontaan sababtoo ah dad meesha waa la wada degay nin kama leh nin walba boos buu ka iibsaday nin walba guri buu ka dhistay nin walba ganacsi buu ka samaystay idoo diidi karta ma leh ninkii meesha wax ku darsadana wax ku leh qofka duusan waxba ku darsan hadda waxba kuma laha ninka hadda qaxootiga iska degan oo ku tashanaya inuu laabto anigu dadkii u tagay baan kamid ah xariyaha qaxootiga iyo waan tagay waxaan ku dhiirigelinay inay dhulka inay dhul qabsadaan dhulka inay iyagu yeeshaan aysan dhul kiraa iyo degin iyagu inay wax ku yeeshaan way shaqaystaan dhismayaasha iyo wax walba ka shaqeeyaan lacag baa soo gashay laakiin waa diraan iyaguna xariiq qaxootiga degan yihiin dadka waxyaabaan ku dhiirigelin dhulka wax ku yeesha 5 ilmood 6 ilmood 10 ilmood 15 baa idinku dhashay ahaanina qaxooti waxbaad ku leedihiin dadka dhulka sheeganaya waa un bay yimaadeen iyaga laftigoodu marka jaaliyadaha dibaddu waxyaabaha ay qaban karaan waxaa kamid ah inay horta iyagu ay noqdaan dad muuqda haddii waa arrinta aan sheegayay macnaha haddii iyagu ay wax yihiin ayay cid kale wax u tari karaan marka iyagu ay midaysan yihiin isku aragti yihiin dadku isku aragti ma wada noqon karaan waad ogtiin waddankan intaas xisbi baa ka jira khasab ma ahan anigu haddaan milyan bartiyad ahay inaan qofka socialka maaragtay isku aragti noqono laakiin waxaa jira waxyaabo aan isku aragti ka nahay caqaa'id baa jira waxyaabahan principe baa jira waxyaabo maaragtay aan ku khasbanahay inaan isku raacno marka Soomaalidu waxa principe-ka ah oo Soomaalinimada ah oo muslimnimada ah oo walaalnimada ah inay horta ay ku midoobaan waxaan qabiilka oo na wareeriyayna laga gudbo laakiin qof ka fiican
aniga waxa macna ii sameynaya qofka wanaagsan laakiin qabiilkiisu macna ii sameyn maayo kan dadka iigu dhow hadduu qof xun yahay wax macnaha ii sameyn maayo wanaag macnaha qabiilnimadiisu waxba ii tari maayo aniga laakiin kan dadka iigu fog hadduu qof fiican yahay isagaa i xiga oo sida wanaagga ayaa la isku xigaa marka jaaliyadu waxyaaba ay qaban karaan waxaa ka mid a inay iyagu horta isnidaamiyaan oo jaaliyada Soomaaliyeed ay noqdaan oo haddii kadib ay xisbiyo kale iyo sii sheeganayaan Puntland iyo Somaliland iyo it's fine lama diidana waa la sii sheegan karaa laakiin haddana wixii ka dhaxeeyay inay ilaashadaan markaas ayay Soomaaliya ay dadkii wax tari karaan runtii wax badan baa jaalidu qabtaan oo dad badan oo active jira oo hadda golaha wasiirada Puntland laga dhisay dad badan oo diaspora baa ku jira inkastoo dad diaspora abaan ku iga diiday leeyahay Cabdiqaadir uu diiday haddana dad badan oo dibadaha ka yimi oo wax ku soo bartay baa ka buuxa baarlamaanka federaalka ayaan ognahay dad badan inay ku jiraan golihii xukuumadaha la soo dhisi jiray tii Cabdiweli iyo dad badan baa ka buuxay runtii wax badan bay isku dayeen waxna waa u hagaagi waayeen oo qofka dibadaha ka taga hadduu muddo joogo oo wadankii ku laabto waxa laga yaabaa inuu meel zira ka bilaabo marka waxa muhiim ah qofku inuu contact la leeyahay dalkii nin professor ah oo jaamacadan la yiraahdo Amoud University haysta baad ka hor noo sheekeynay wuxuu yiri aniga Mareykan tagay oo intaas sano professor ahaa oo xagga tagay oo intaas soo diyaariyay baan oo aan isu haysta wax ii dhiman inaysan jirin baa wuxuu yiri waxaan tagay Hargeysa wuxuu yiri waxaan isku hayaa inaan ka bilaabay dugsi sare iyo dugsi dhexe midkaan ka bilaabaan garan waayay buu yiri laakiin waxaan hubaa buu yiri inaan meel aad u hooseysa ka soo bilaabay nolosha macnaha dadkii inaan fahmo qaabka dadku u dhaqmayaan qaabka isu fahmaan see dadku isu inaad dadkii isfahantaan baa waqti ah marka dadku forbindals macnaha xiriirka dalka la leeyahay horta waa in la wanaajiyaa qofku waa inuu dalkii xiriir la leeyahay ehelkii xiriir la leeyahay hadduu meel aadayo dalkii inuu aado oo inaadan inta Masar iyo fulaan iyo aadi lahayd inaad soo fiiriso waxba u tartay marka dalkii aadid diyaaradii tagaysay baad lacag ku bixisay hotel baad degtay makhaayad baa wax ka cuntay mid baa ku shaxaaday mid maskiina wax siisay waxba indhahaaga ku soo aragtay marka tegidda dalka la tagaa macnay sameynaysaa contribution baa wax ka bixisay marka tagtid qofkii marka dhulka iibsada ama business ka sameeysta ama guriga ka dhigsta waa ka sii fiicanta isaga laftigiisu waxba ku darsaday marka waxyaabahaas in la hagaajiyo oo Soomaalinimo oo meel walba maahan Puntland kaliya kan Hargeysa ka yimid Hargeysa tago oo wax ku darsado oo dhulka iibsado oo uu maaragtay dadkii soo arko kan xamar ka yimid sidoo kale kan Kismaayo ka yimid sidoo kale kan meel kale meel walba inuu tagidaas macnay u sameynaysa inta waxa soo xigta hadda kadib baa marka wixii sidii la isugu xiri lahaay oo dadku waa safiiro oo meeshan aad joogtaan safiirada ku tihiin dadkan aad la joogtaan oo cadaanka idin soo dhaweeyay anu magaalada waa deganaan jiray halkan meel hadda noo jirta 500 mitir baan hadda ka hor deganaa 5 bilood baan deganaa iskalistoona iguma cusba laakiin intaanoo Soomaaliya waaga ma deganayn dad yar baa waaga deganaa marka dadka ka dambeeya ayaa aad u fara badan meel kasta waa sida maalmaan tagay Tibori baan tagay hadda Stockholm hadda aan dhowr sano warwareegayo ka maqnaa baan ku soo laabtay qof waa ka garan waay waa dad wada cusub dadkaas marka dadkan waana fiirinayaan waxay fiirinayaan saynu nahay dalkeen haday noo arkaan dad dalkooda xiriir la leh oo wanaagsan hada waana soo dhaweynaya laakiin hadii ay noo arkaan dad aan dhul lahayn oo ehel lahayn oo dawlad lahayn hadee soo dhaweyn badan la kulmayno inta waxa dheer siyaasadda dalka wadanka doorasho ka socota oo campaignadu waa bilowdeen waxa muhiim ah inaan ka qayb qaadano oo soo uga qayb qaadanayna dadka musharaxiinta inaan weydiino maxaa noo qabanaysan anagu halgeysaan ka nimi anagu Puntland baan ka imi xamar baan maxaa noo qabanaysa baarlamaanka hadaa gashid maxaad macnaha halkan okay waa su'aasha koowaad su'aasha labaad ee weydiinaysa waxa weeye maxaad noo qaban kartaan maxaad maaragtay Puntland u qaban kartaan maxaad Soomaaliland u qaban kartaan maxaad xamar u qaban kartaan maxaad Jubbaland u qaban kartaan maxaa nagu soo kordhinaysa inuusan marka qofkii maalintu codka raadinayo waxyaabahaas inaad ku darsataan su'aalaha weydiinaysaan dadka Soomaalida way badan yihiin hadda Soomaalidu laba ayaa baarlamaanka dhexaadda ku jirta kuwa badan u tartamayaan ogahay marka su'aalaha weydiinaysaan ku darsada insha Allah taala dalkiina saaha looga warhayo idinku isku xirnaada
waxbarashada ha laga faa'iidaysto oo dhalinta ha looga faa'iideeyo oo waxbarashadu waa muhiim oo meesha hadda aan ku noolnahay hadda dalkeenna dictooreysada arrinta ay sheegaysay xalay baan ka qayb galay bandhig arrintaa looga hadlaayay waa isla joognay dictooreysada waxyaabaha aqoonta ah waa muhiim hadda Soomaaliya lacag badan baa la geliyay malaayiin baa la geliyay kanaal la aruuriyay new deal baa la keenay millions xamatarin waxa la ogaaday meelaha ay ugu liidato caafimaadka ka mid ah ilmaha yararka ah nafaqadarrada u dhimanaya umul raaca hooyadii iyadoo aan helin meel macnaha qof xirfadlaah oo ka umuliya ay isku dhimanayso waxyaabahaas qof dhiig joojin waxyaabaha emergency-ga marka waxa la yiri wadankii hadda ilaami ma wada maro magaalooyin waaweyn ma wada aha dadka 70% waxay degan yihiin meel aan laami ahayn 70% hadda gaar ahaan inta Puntland aan ka warhayo 70% waxay degan yihiin meel fog oo baadiya oo tuulooyin ah oo marka dadkaasi caafimaad loo gaarsiin karaa dhakhaatiirtii ma tagayso wiil dhakhtar ah wiil baa la diray Suudaan wax ku soo bartay 5 sano 6 sano soo baranayay waxaan ku geynayaa baargaal ma yeelayo wuxuu leeyahay meeqa mushaar qaadanaya $1500 ma lagu siinaya meeshu laami ma tahay aniga caafimaad ma helaya aniga maxaa u diidaya sadarteed waxa la yiri waxyaabaha basic ah oo caafimaadka qof kalkaaliya caafimaad ah hala diyaariyo oo meesha ka yimi oo markii hore meesha ku noolaa qofkaas marka wuxuu ka adag yahay waxyaabaha emergency-ga oo dhan inuu waxyaabaha emergency-ga inuu isagu fuliyo awal hadda barnaamijka waa la bilaabay oo kulay Puntland aad buu uga socday hay'aduna waa taageero shacabna waa loo baahan yahay sababtoo ah in tirada loo baahan yahay iyo tirada hadda diyaarsan isma laha tirada loo baahan yahay ayaa badan marka barnaamijka kulay waa la idin soo bandhigi doonaa laakiin aqoonta ayaan ka hadlayay dhulkan laga faa'iideysto dhalinta waxa la baro waxa bartaan markay wax bartaan ayay iyaguna wax qabsan karaan anagina wax noo qaban karaan dalkiina wax u qaban karaan marka waxbarashada aan la xoojiyo waa idinku dheereeyay raali ahaada waa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim xildhibaanku aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixinta dheer ee uu noo soo jeediyey ee ka hadlaysa qaybaha kala duwan ee nidaamka ama siyaasadda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyaba iyo dardaaranka aad muhiimka u ah ee uu nasiiyay ee ka mid tahay dardaarankan hadda uu nasiiyay xildhibaanku wuxuu ku xiran yahay oo uu leeyahay xiriir sida la socotaan sanadkii hadda maaha 2012 markii la qabtay kowda luuliyo lagu qabtay halkii markii ugu horeysay meel banaanka loo soo baxo ay ahayd ay qabteen dhalinyarada Maxamed Qadar gudoomiyaha dhalinyarada iyo ayaa jooga gudoomiyaha magaalada wuxuu yiri markuu mikrofoonka qabsaday Soomaaliya wax ma u qabanaysaan haa baan niri wuxuu yiri ma rabtaan in Soomaaliya wax u qabataan haa ma rabtaan tacliintina wax u qabataan haa ma rabtaan in dhaqaalaha ka qayb qaadataan haa waa inaad halka wax ka noqotaan buu yiri horta halkan aad joogtaan horta inaad wax ka noqotaan waa inaad halka ku dadaashaan sida hadda xildhibaanku sheegay tacliinta waxyaaluhu magacaabay ka mid ahayd inaad tacliinta ku dadaashaan inaad dhaqaale samaysataan oo shirkadaha samaysataan oo aad dhaqaalaha qayb ka noqotaan oo aad tacliinta qayb ka noqotaan oo aad siyaasadda qayb ka noqotaan oo aad guryaha qayb ka noqotaan oo dhinac walba qayb ka noqotaan maxaa yeelay meel markii aad sharaf ka leedahay ayaa dalkaagina wax u gudbin kartaa hadda kaftan baa iga ahaato ragga iyaga aqoon-yahanada ah ee hadda Puntland ama dawladda federaalka Soomaaliya iyo xamar ilaa Somaliland taga waxa la yiraahdaa badanaaba inaan waligii shaqeyn shahaado iska haysta laakiin waligiiba aan maalin u shaqo tagin wadamada Yurubta ahaa uu joogay ayaa hal mar Soomaaliya iska yimid isagoo wasiir doonaya hadda from shaqo la'aan ilaa wasiir wax badan baa u dhaxeeya halka marka waxa wanaagsan marka hore qofku meesha inuu soo buuxiyo horta bal horta uu soo rafto oo isagii maaragtay tijaabiyo shaqadii waxyaalaha markaana dalkiina wax uu qaban karaa aad iyo aad ayuu xildhibaanku mahadsan yahay maxaad ii qabanaysaa aniga maxaa u qabanaysaa community-ga ama bulshada Soomaalida ama bulshada ajnabiga ah guud ahaan kadib markaa kadib waqtiyada laga faa'iideysto ay ka mid tahay ku dheeraan maayo aad iyo aad ayuu mar kale u mahadsan yahay xildhibaanku iyo dhammaan dadkii halka nagala soo qayb galayba waxaynu u gudbaynaa dhinaca su'aalaha ayaynu u gudbaynaa intayna su'aalaha u gudagelin waxaan ku darayaa dadka waqtiyo badan baa barnaamijyada noocaan ka soo shaqeeyay
marar badan waxaa isu dhex darma su-aalaha iyo waxusheega iyo dardaaranka iyo wixii oo dhan baa su-aasha dhex galaa sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa su-aashu inay su-aal ahaato waa saas weeye sida tabaarak sheegay khilaaf waa jira awalna waa tilmaamay runtii exacti anigu ma hayo qodobo badan baa la soo qoray ilaa 36 qodob waagii dowladii hore ay soo qortay in dastuurka laga bedelay marka isfaham waaga qodobadaas qolada waxay ku doodayaan federaalku kalfadhiga ugu horeeyay oo baarlamaanku uu yeeshay ayaa qodobada laga bedelay oo baarlamaanka maadaama uu hay'adii sharci dejinta ahaa isaga ayaa wixii road mapku ay ku heshiiyeen wax ka bedelay marka kolley qoladana waxay leeyihiin maya waxay ahayd in la ka qayb geliyo oo road mapka laftigiisa dastuurka lagu sameeyay baa waxaa ku jiray qodobo qeexaya in maamulada markaa jira haddii wax la bedelay lagala tashto marka kolley waa iska wax farsamo oo wax weyn maaha laakiin waa wax farsamo waa jirtaa aragtiyo la leeyahay federaalka dhan baa la diidan yahay oo maaragtay dad ay qabaan waa jirtaa fikrado oranaya Puntland inay goosatay rabtaay oo justification bay raadinaysaa laakiin qodobada dastuurka waa laga bedelay oo labada dastuur isma laha waxaana lagu doodayaa inay baarlamaanku bedelay oo runtii marka cilada waxaa loo tirin lahaa dadkii Puntland ka tirsanaa oo baarlamaanka u matalayay maxay markaa u soo sheegi waayeen maxay xiriirka u hagaajin waayeen annagu hadda xubno badan oo baarlamaan ka mid ah oo reer Puntland ah markii ay noo yimaadeen hadda caleemasaarkii dowladda cusub su'aalaha waa weydiinay laakiin waxay noo sheegeen xamar inaan waxba la isdhihi karin aragtidaada inaadan dhiiban karin oo aadan xor u ahayn ciladahaas inay jiraan inay macnaha qofku inay adag tahay inuu aragtidiisa saxda cabiro isagoo macnaha security macnaha arrimaha la xiriira ammaankiisa in wax la yeeli karo marka arrimahaas ay ku cabireen laakiin wax khaldan yihiin waa sheegeen laakiin waxa dhan haddii la isu yimaado waxaan rajaynaynaa oo laga wada hadlo in la xallin karo sababto waxyaaba ka daran ayaa la xalliyey waa mahadsantaha wasaaradda waxbarashada way xukuntaa marka si loo fiiriyo way xukuntaa marka si loo fiiriyana ma xukunto waxaan ognahay Soomaaliya hadii dagaal ku dhacay haday abwaankii halkan sheegayo iskoolaadkii markuu ka waramayay qaabkay ahaayeen waa la garanayaa oo qaab private ay ku bilowdeen hadii maamulkii markaa yimina amnigii iyo arrimihii kale ayuu xooga saarayay laakiin hadda dawladdii ugu dambeysay waxay xoog saartay inay midayso imtixaanada in la mideeyo manhajka isku manhaj in laga dhigo isku imtixaanna ay galaan marka qofkii macnaha iskoolkii ka soo bixi waayay iskoolka waa private oo lacag buu qaataa oo dadka lacag baa laga qaadaa iskoolaad waa jiraan dawladdu ay maamusho oo ay dawladdu mushaarka bixiso waa jiraan laakiin ma badna way jiraan gaalkacyo waa ka furan yihiin garow waa ka furan yihiin booso waa ka furan yihiin laakiin ma baahsano oo iskoolaad aad u baahsan maaha marka way maamushaa oo manhajka iyo imtixaanku waa midaysan yahay laakiin dhinaca kale oo waana wasaaradda hoos tagaan hadii la bedelayo arday hadii iskool laga bedelayo oo iskool kale la geynayo waa in wasaaradii la maraa in fact aniga ciyaal baan halkan ka cishay oo waxaan geeyay wadankii halkan Soomaaliya baa loogu dhigi jiray xaggana iskoolkii aan geeyay kuma jirin manhajkiisa in Soomaaliya lagu dhigo arrin nasiib darro ay ahayd iskoolkii waa kala hadlay markii horena ciyaalka laftigooda ayaa igu balaarij waxay dheen aab xagga Soomaaliya aan loo dhigi jiray halkan maxaa Soomaaliga ku dhacay oo way weydiiyeen marka iskoolkii haddaan la xiriirin waxay ii sheegeen inay hawsha ku hawlan yihiin oo ay maadada Soomaaliga ku dari doonaan waqtiyada soo socda haddii alla idmo marka waa jiraan manaahida iskoolaad laga dhigana waa jiraan iskoolaadan laga dhigina way jirtaa waana su'aal fiican in Soomaaligu xoog la saaro sababta qofku markuu luqad leeyahay uu luqad kala baran karaa waxaan weydiiyo su'aalaha in badan raadinayay shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ah yani baarlamaanku marka ay dooranayaan madaxweynaha waxay ku shaqeeyaan yani lacag bay qaataan si la sheego يعني ما jirtaa su'aashaas inay baarlamaanku lacag qaataan mise waa yani waxay u doortaan danta dadka iyo dalka su'aasha intaa بسم الله الرحمن الرحيم محمد أمين وما صنت هاي رنتي وسؤال مهم anigu waxaan ka warrami karaa
baarlamaanka puntland in lacag waa la isticmaalaa oo doorashooyinka waad ogtiin in lacag la isticmaalo oo halkan waddanka aan ku noolnahay baa la isticmaalaa lacag laakiin baysku lacag maaha oo waxyaabaha bayska anigu waxaan ogaa 37 xildhibaan oo ka tirsan puntland inaan meel isugu nimi inaan debate ka samaynay meel qarsoon baan isugu nimi ayadoo cidina la joogin oo media la joogin oo aan isku dhaarsanay inaan xogteedu aysan soo bixin waxaan discussion ka sameeyay dadka musharaxiinta kan muxuu ku fiican yahay kan muxuu ku iyagaan macnaha daraasaynay kaas waxa suu yiri kaas waxa ku fiican yahay kaas taa maxaan uga jeednay inaan qofkii sax ahayd la soo baxno oo hadeen kii sax ahayd la soo bixi weyna kii ku xigay aan la soo baxno marka baysku ama waxa cabirka u dameeyahay lacag ma ahan laakiin hadda lacagtu waa iska orodaayo waa iska wareegtaa nin hadda yiraahda lacag baan codka kaaga iibsanayaana ma dhicin puntland in nin inta u yeero uu ku yiraahdo codkaaga iga iibso meeqa iga siinaysa waxaas kama jirin mana la kulmin in la kulantayna ma arag waqtiga hadda doorashada lagu jiray waan weydiiyey baarlamaanka intiisa badan qof walba aanu dadka iska niyuufiikaneed dadku waxaan jeclahay meesha aan joogo qofka inaan xogtiisa helo marka su'aalahaas dadka aad baan u weydiiyey meeqa iga siisanaysaa codka ma iga iibsanaysaa ma dhicin baarlamaanka puntland kama dhicin musharaxiintuna kuma hadaaqin oo kama aysan soo bixin cid dhaba oo musharaxa inuu inta yimaado uu yiraahdo cod baan iibsanayaa hadda waxa la iibsanaya waa masiirkii ummadda marka anagu waxaan bays ka dhigaynay yaa ummadda anfac u ah yaa ummadda wax u taraya marka laga gudoomiyihii marka lagu daro gudoomiyaha baarlamaanka la doortay ku-xigeenaha la doortay madaxweynihii baa la doortay marka halkaasaa baysku ahaa wax lacagana bays ma ahayn aad iyo aad u mahadsantahay su-aasha waxay tahay ku weydiin rabo su-aal waxaa jirta dadka badan inta badan ay isla dhex socdaan markaa tagto meelaha suuqyada su-aasha waxay tahay dowladda federaalka soomaaliya waxaabay ka socon lahadaa waxaa ka mid ah puntland taas waa mid su-aasha kale ku weydiin waxay tahay xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ah oo matalo puntland ma oran karnaa puntland way matalaan haddiise ay matalaan waxay u dhacdaa inta badan in xildhibaanada ayagooban waxba ka hadlin inay dowladda puntland ayadoo ay hadasho maxay dhacdaa waxaan rajaynayaa su-aasha inaa adaaya ka jawaabay oo xildhibaanadu puntland way matalaan infact sababta puntland bay ka yimaadeen ismadii puntland baa soo doortay iyagoo puntland matalaya ayay halkaa tageen laakiin situationka ay ku jiraan ayaa laga yaabaa inaysan saamixin inay ka hadlaan waxyaabo badan waa midna hadda sheegay annaga waxyaabaha ay noo sheegeen bay ka mid ahayd annagaa la kulannay annagaa arag waxaan idhi maxaa haddii waxaan la bedelay oo saan loo bedelay maxaa hadli weydeen maxaa ugu soo sheegi weydeen maxaa idaacadaha uga hadli maxaa ummadda ugu iftiimin weydeen marka xaaladda lagu sugan yahay ayaa ka duwan xaaladda qofka puntland jooga ama garoowe jooga waa ka duwan yahay qofka xamar jooga isku xaalad ma aha marka taas ayaa keentay laakiin puntland way matalaan arrimaha hadda la isku hayayna dhexdhexaad badan bay ka galeen iyaga laftigooda way ku jireen ilaa haddayna ku jiraan inay macnaha isu keenaan hadda markii u dambeysay oo ay imaanayeen arrimahaasay ku howlanaayeen marka intaas ayaan kusoo kaabinaya qodobka dowladdu waxay ka socon laadahay runtii dee waxaan isaga arkaa waxaan jirin oo puntland waa la oran karaa puntland waxay ka socon laadahay dowladda federaalka saabaa u dhigi karaa sababtaa puntland waa state saxiixa waxaa haysta federaalka puntland saxiix ma haysato marka kama socan kari karto ee dowladda federaalka waad ogtihiin mucaawanooyinkii soomaaliya la geynaya oo dhan xamar baa la geeyaa hadda waxyaabaha laysku haysta waxaa ka mid ah new deal lacagihii soomaaliya loogu deeqay xamar ha la mariyaa la yidhi dee puntland meel kasta ha soo martee inay waxeeda heshay rabtaa waxay rabtaa lacagtan soomaaliya loogu deeqay inay cadkeeda ka hesho laakiin xamar hadday soo marto dhibaato uma aragto marka puntland dowladda federaalka way aqoonsan tahay dowladda federaalkuna iyadaa saxiixii soomaaliya matasha shantii qodob oo dowladda federaalku ay lahayd iyadaa haysata ilaa hadda lacag baa laga sugaya dowladda federaalka waxaan ognahay shilinkii soomaaligu inuu baaba'ay
hadda gobolladan puntland anigu aan ka imi dollar baa la isticmaalaa waa nasiib darro sahal baa la isticmaalaa dollar baa la isticmaalaa dowladda federaalka laga sugayaa inay lacag keento oo lacagtan lagu bedelo lama hayo baasaboorkii waad ogtihiin oo dowladda federaalku ay leedahay maalin walba wuu hakad baa gelaya anigu hadda markaan soo tegayay ma jirin waa la joojiyey tii kale waxaa ka mid ah gaashaandhigo iyadu ay lahayd marka arrimahan dowladdu iyadaa iskale haddaysan dayacin dowladda puntlandna sabab ay hadda ku hor istaagto ama ay awood ay u leedahay inay ku hor istaagto maba jiri karto marka intaasaan baan ku koobaya insha allah su-aalaheeni waa inoo socdaa jaabir walaayo ciise ciise waa soo socdaa su-aalaha waxaa haddana aan su-aasha siinayaa abwaan jaabir runtii dee qofku waxbaa fasir waa iska jiri karaayo waxbaa qolob waxay wax u fasirataa marka haddaan ku dhaho saa looma fasiran karo laftigeedu sax ma aha laakiin dowladda puntland dastuurkii u dammeeyey oo hadda road mapka oo la saxiixay oo dowladda federaalka looga saaray kumeelgaarnimada ayay ku qornayd in states la isticmaalo magaca state ama dowlad waxyaabaha marka laga hadlaya dastuurka ku qoran waxaa ka mid ah dowladaha xubnaha ka noqonaya dowladda dhexe marka waana sheegayoo 5 shay ayay dowladda dhexe gooni u ah laakiin inta kale way kala dhaxaysaayoo hadda awooddii baa la baahiyey marka puntland kolley intaan ka ogahay waxay rajaynaysaa in la helo dowlad dhexe oo hawsheeda qabsata iyaduna ay noqoto qayb ka mid ah intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum mudan isfatar aada u mahadsan tahay su-aasha horeta oo mid hore daba joogto waxaa weyaan ninka dibutaatiga ama member of parliament oo muqdisho jooga meeshu doonaa ka yimaado qadiyadda loo doortay hadduu ka baqanayo waxaa meesha ka baxaysaa in uusan sacrifice sameynayn waxaa meesha ka muuqanaysa inuu naftiisa horin waxaa meesha ka muuqanaysa entitiga uu wakiilka ka ahaa oo reer puntland sadonta u fasir in masiirkoodii uu ka baqay in uu u bareero runtii taas maana kugu muuqanin in ay tahay yani baqdin aan loo baahnayn kuwaas qofkan waa martyrdom ama shahiid haddii qadiyad uu leeyahay inuu rabo inuu difaaco ay surto weysay inuu difaaco taas waa midda ku saabsan cabashooyin waxaa jiri jiray dad ka yimaado gobolkan etoobiyaanka gumaystaan xarakada gumaydoonka dad ka yimid in maxaa ahaay dib loo celin jiro oo loo gacan gelin jiray ethoobiyaanska arrinkaaseeto maxaa go-aanaa oo rasmi ah oo dowladda ay ka soo saartay kolley inta kale waa iska talaan u malaynayaa taas baarlamaankana hadday baan ka jawaabay oo hadda ma oran karo qof waad ogtihiin meeshaan hadda aan ku noolnahay arbasimilyo loogana ka jira sharci la yiraahdo sharciga ilaalinta shaqada oo qofku xataa inuu noloshiisa uu ilaaliyo muu ka baxo muu meel kale aado muu fulaan habeendood waxaan dhegaysanaya nin intuu soo tegay war buu rabay inuu wax sheeguu rabay wuu soo tegay nairobi buu yimi markii su-aashii la weydiiyey maxaa adoo xamar jooga u dhihi weysana wuxuu yidhi nafsadayda ayaan u baqay marka waxaan filayaa waa debate kale macnaha sacrifice maaha miya maxay iyagu meesha ku joogaan maxay meesha uga tegi waayeen waa arrimo kaleoo su-aalo kaleoo fara badan oo hadda dee inaan anigu go-aan inta qaato aan meel ku gooyo ama aan xukmiyo waxay la tahay inaysan munaasab ahayn laakiin waa debate furan oo annaga laftii waxyaabaan kala hadalnay waxaa ka mid ah inay dee maadaama iyagu safaradii meesha jooga ay yihiin inay wax isu soo dhoweeyaan wax isu keenaan wanaag ka shaqeeyaan marka wayna ku hawlan yihiin hadda oo waxaa ka muhiimsan intay war xun sheegi lahaayeen war wanaagsan inay keenaan oo waxay isu soo dhoweeyaan ayaa ka muhiimsan waana ka rajaynayna insha allah dibcolinta waxaan un ka jawaabi karaa runtii markaan ogahay qof la celiyey intaan hadda anugu joogay cid la celiyey ma jirin
wax badan oo la sheegana waa jiraan laakiin aan wax ka jirin marka ma jiraan hadda xukuumadda hadda anigu aan ku jiro cid la celiyey laakiin debatekaas nin dhan oo wasiira loo magacaabay inuu problemka ka imaan kara ee deegaankaas dadku deegaanka ku nool oo xagga u dhashay ama goboladaas kilinka nin wasiira loo magacaabay sababtii loo magacaabay waxaa ka mid ahay dadka haddii dhib jiro oo arrintaana ka mid ahayd sabaha loo magacaabay inay ka warbixiyaan inay ka warhayaan inay warkada keenaan marka arrimaha insha allahu tacala waxaan ballan qaadaynaa annagu inaan cidna sharci darro cid sharci la mariyey aan maxkamadi celin inaan qof la iska celin taa annaga baarlamaanka ahaan awoodda iska leh waana isticmaalaynaa insha allahu tacaala awooddaas laakiin waxaan ka jawaabi karnaa wax annagu hadda mandateka annagu aan haysanno kama jawaabi karno wax horey u dhacay oo aanan xaqiiqdiisii hayn aad iyo aad ayaa mahadsantiin xildhibaanku aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waana shaqooyinka baarlamaanka ayay ka mid tahay baarlamaanka puntland waxaan ku darayaa wuxuu u badan yahay waqtigan dhalinyaraha oo aqoon-yahana waxaa iskale cidda ay khusayso oo baarlamaanku dee wixii sharci ah hadday sharci u baahan tahay unbaa baarlamaanka la keenaa laakiin wax haddaysan sharci la xiriirin oo development ama horumarin ay tahay baarlamaanka qayb bay ka soo martaa waana qaybta wasaaradda qorsheynta la shaqaysa oo arrimaha horumarinta ku mashquulsan baa xogta la siiyaa waxa mashruuca la fulinayo iyo qaabka loo fulinayo laakiin mana diidi karaan ayagu mana amri karaan mashruuca halkaa laga fuliyo taa xukuumadda iskale qodobkii kale wuxuu ahaa waxyaabaha dee xiriir la-aantay ka mid tahay haddaan xiriir jirin maxaa dood ma imaan karto qofka markaad wax idinka dhexeeyaan baa wax u raadsan karta laakiin hadda xiriirkii waa go-an yahay marka xiriirku furmo oo la wada hadlo arrimaha laga wada hadli doono ayay ka mid tahay dee waxay dabcan u baahan tahay maxkamad iyo caddayn iyo fulaan iyo warbay badan bay u baahan tahay marka taas wadahadalka ayaa ka horeeya waa jiraan iskool free ah waa jiraa isbitaallo free ah oo weliba daawadu ay free tahay isbitaalka boosaaso isbitaalka garoowe isbitaalka galkacyo ku yaala waa jiraa waxyaabo yaryar oo khadamaada oo laga qaado laakiin waa bilaash qofku hadduu bil ku jiro iyo hadduu 2 bilood ku jiro sariir lacag laguma soo dallacdo dhakhtarka uu imaanaya visit lacag lagama qaado marka waa la oran karaa waa free daawada la siinayo waa free oo isbitaalka daawadu ay taallaa taas waa dhinaca isbitaallada waa jiraan meelo badan aan free ka jirin dabcan laakiin saddexda aan ogahay saddexda isbitaalba waa free iskoolaad freena waa jiraan gaalkacyo waa ka jiraan garowna waa ka jiraan boosana waa ka jiraan intaan ogahay qardhana waa ka jiraan laakiin freegu waxun fiya laga qaadaa oo aad u yar oo ka yar iskoolaadka privatka marka waa midaas dhinaca boosaaso anugu boosaaso haddeer aan ka imi meer ay ka qurux badan tahay oo ay ka wanaagsan tahay oo ka dad badan tahay boosaaso ma arag waxaan u malaynayaa markii ugu badnaa boosaaso ilaa 1994 waxaan ka maqnaa 1 sano hadda mar ay dekadu ka camiran tahay oo laamiyada la sameynaya ka badan yihiin oo aeroboorku ka camiran yahay ka busy yahay oo dadku ka badan yihiin ma arag marka waxaan malaynayaa markii hore ugu dambeysay marka samarkan insha Allah taala suugayna inaan xagga timaad laamiga inta badan inay jecel dowladda laamiyada inay ka degato oo xoogaa energy ku qabtaan haddii dadka qurba joogta ay isku dayaan waxay karaamkooda iyo awoodooda ay naftooda iyo maalkooda geliyaan waqtigooda qaaligaana siiyaan special hospital maxaa qofka waxaa sameyn uu yahay qof dumar ah oo gurigiisii iyo shaqadiisii iyo ilmihiisiiba ka tegaya maxaa macquul ah markuu dekada boosaaso soo istaago dhibka doonaba ha u soo maro maxay dowladdu ka caawin kartaa taargetkii uu lahaa alaabta inuu gaarsiiyo qodobka koowaad oo ah dowladdu inaysan laamiga ka degin hadda dowladdan cabdulla waxaabihii lagu doortay waxaa ka mid ahaa inuu laamiga ka degi doono marka isaga ayaana ka degay intuu musharaxa ahaa marka waa ka sugaynaa insha allahu tacaala inuu maamulka iyo isbitaalka iyo iskoolaadka inuu laamiga ka dejiyo annaga la xisaabtan baan ku leenahay laakiin annagu ka dejin mayno dowladda laamiga laakiin ciddaan u wakiilanay waa iyagaa la raba inay ka dejiyaan arrinta kale oo ah wixii la keeno wadanka
hadda qayb baanu ka nahay inaanu fududayno inaan canshuur laga qaadin in wixii transportigii loo sameeyo meeshii loogu talagalay in la geeyo inaan qofkii isu soo xilqaamay karaamayno soo dhaweyno wuxuu u baahan yahay la qabanno dalkii jeclaysiino intaasaan qaban karnaa waana qabanaynaa insha allah nooga tarjumay xaaladda uu maanta joogo iyo adigu wanaageediina anigu su-aashaan qabaa waxay tahay mid kulley aan u malaynaya inay aada u culus tahay qofka ka jawaabayna aana uusan majelbalkii ugu jiri waxay tahay laga bilaabo mudanaha martida inoo ah ciid ilaa iyo madaxweyne kulli qorbay ka tageen dadkii waddanka joogay ma waxay noqdeen ninka xoolaha ku raacahoo adigu hilibkiisa iyo caanihiisa iyo wixiisa aada leedahay iyo maamulkiisa iyo waxbixintiisa isaguna hawsha uu leh miyaa dadka macnaha waddanka ku sugan aqoon-yahankii baa jooga mid ilaa iyo PhD holderaa baa jooga kuwa aan ka bixin baa jooga oo musharaxiinta ka mid ahayoo uu ka mid yahay cali cabdi awaare ma u malaynayo inuu dhowr bilood inuu dibadda kaga maqnaa laakiin weli garaam kama qaadan dibad ilaa iyo intaan halkaasi joogo lama dooran waddanka dadka waxaa iskale oo loo hayaa dadka dibadaha ka jira anigu su-aashaas rabaa in iga shaafiyo mahadsan yahay isaga ayaana sheegay su-aasha inaan laga jawaabi karin marka waxaan rajaynayaa inuusan iga sugin inaan wax ka jawaabo oo dhaho waa sidaas iyo waa sidaas laakiin kolley dadka hadda musharaxiintii 21 aan sheegaya markaan fiiriyo qurbajoog bay u badnaayeen caliga aan sheegaysi waa qurbajoog basaboor Jabuuti aan haystaa waa saaxiibkay qofku hadduuba uu jinsiyad kala wato uusan Soomaali wadan hadda waa iska qurbajoog ama qurbo ama ha dheeraado ama ha dhawaado macna weyn samayn mayso marka waxaa moodaa kalsooni daro dadkii deegaanku mar haddaan basaboor ama casam fulaan uusan jeebka ugu jirin inaysan kalsooni weyn isku qabin marka ayagaan ku dhiirigelin doonaa inay iyaga laftooda isku kalsoonaadaanoo ay soo kacaan laakiin hadda wax waa siyaasado nin gurigiisa fadhiyo albaabka laga gargaraacayo lorme kaale madaxweynaha ku haynaa isagaa la rabaa inuu maaragtay uu dadaalo ordo laakiin de ma jiraan shuruud ku xiran ama fulaan marka dadaalka looga dheereeyay inagaa uga dheerayn adna waa ka mid tahay nasiib baa ku leedahay marka insha allah iyaguna waa sugeen baarlamaankiina puntland ma isku daydeen inaad casintaan u yeertaan baarlamaanka federaalka dadka reer puntland matala ee fadhiya maxaa jira maadaaba shacbiga reer puntland hantidooda xamar lagu haysto markii ay doontaana dadka lagu dhexlaayo in ay amuurtaa dowladda federaalka idinku haddaynan kontaakt lahayn ay kala xiriiraan caasho waa mahadsan tahay runtii maanaan casumin casumaad macnaha khusaysa arintaas annagu maana yeerin laakiin casumaad waxaan u dirnay inay kasoo qayb galaan iyaga keligoodna ma ahayn baarlamaanka xamar iyo dowladda xamar ciddii imaan karta oo Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku casunnay inay kasoo qayb galaan xafladda caleemasaarkii ee dowladda cusbayd badankoodii iyo dad badan oo wasiirro ahaa waa yimaadeen runtii arrimaha laga wada hadlayna ka mid ma ahayn arrimahaas waa jirtaa si private sida anigoo kale inaanu ka warwareysanay dhibaatada arrinta ka jirta inaanu wax badan iska wareysanay laakiin waa ra'yi fiican in intay iyagoo dhan la casumo wax la isdhaafsado shacabkii saan oo kale shacabkii xataa ay u yimaadaanoo ay wareystaan waa arrin muhiima waana qaadi doonaa insha allah gaar ahaan xildhibaanka aad baan u salaamayaa su-aashaydu waxa weeyaan waxaa la go-aamiyaa la yidhi baarlamaanka puntland waxay go-aamiyeen waddo ka baxda garoowe oo tagta jigjiga haddana kasii baxda oo tagta gaarisa haddana kasii baxda oo tagta kismaayo haddana kasii baxda oo tagta luuq iyo garbaharey arrinkaa maxaa ka jira الرحمن الرحيم waxaan ku bilaabayaa marka koowaad su'aashii editores Jahan ay weydiisay oo ahayd ID-ga la bixinayo criteria-ka lagu qaadanayo runtii discussion-kaas waa furnaa markii ugu dambeysayna wali lama go'aankii u dambeeyay waxa laga hadlayay oo hadda ugu badnaa dadka caadiga wadanka degan
dee kriteeriyarku waa inuu qofku waddanka degan yahay ama guri ku leeyahay ama degan yahay ama la garanayaa cid garanaysa ay jirto ama qabiil iyo waxaasu bays ma ahayn laakiin waxaa muhiima qofku inuu waddanka degan yahay uu deegaan yahay waxaa hadda laga hadlayey dadka IDB-yada la yidhaahdo oo macnaha soo barakacayaasha ah oo ayagu waddankii degan haddana aan deganayn oo haddaaya aan ka hadlaayey kaar noocayaa la siin doonaa arrintaas discussion furan bay ahayd waa khasab in kaarar la siiyo marka discussion furan buu ahaa oo weli lama go'aamin laakiin hadda dadka sida lagu qaadanayay qofku waa inuu waddanka uu deegaan yahay laakiin bays qabiil maaha waxaa su-aasha kale oo ahayd waddada Garowe ka baxda oo dhulkaasoo dhan isu marta oo baarlamaanku ansixiyo kolley baarlamaanka ansixiyo anuu ka mid maahi namana soo marin mana aanaan ansixin hadday waddada kusoo jirtana dee waan rajaynaynaa waddo fiican aad iyo aad xildhibaanku aad iyo aad u mahadsan yahay hal su-aal oo gadaal laga keenay aansaan laakiin shantii hore Highland Karkaar iyo Gardafu gobol la yiraahdo ee baarlamaanku ansixiyeen oo inta hadda Puntland jirta lagu soo daray marka waa 8 gobol iyo degmada Buuhoodle oo wali degmadii Buuhoodle ah waa intaas su'aalihii waa dhamaynay waxa kaliya hal mar mikrofoonka siinaya hal daqiiqo siiya kaliya caasimad dhankayga maxaa la Jarmalka jaaliyada Jarmalka Puntland inaad nagala soo qayb gashay hadii ay macquul ku tahay inaad xiriir nala samaysid insha Allah taala aad iyo aad waxaan anigoo ku hadlaya magaca dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed degmada Iskalistoona iyo macnaha jaaliyada deegaanka Puntlandba waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa codsiga iyaga aad naga aqbasheen oo aad nagala soo qayb gasheen barnaamijkan soo dhaweynta xildhibaanka dhammaantiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu